waxaan aajin jirino muxuu leeyahay tir haduu muxuu sameynaa goolka furisanaa intuu ku bloogo waa booda mugta oo blooga haye war ana hadda rabo booda dheeriya marka wuxuu ku leeyahay wallahi gooshan ku fadhiisaa meeshan kugu sugaa ilmiya taas marka waa 3 seconds ku jiraabe wuxuu ahaa number 1 volleyballka ما شاء الله wuxuu ahaa number 1 kubadda cagta munishibi basketballka kooxda number 1 uu ahaa ما شاء الله joker waxa waa dhamaa laakiin haddana ma aqaan wixii ma ka kala qaybsamay ma ogeey waxa waaye wax ma gaaraynin ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله بسم الله هرتر لبدينا idinku bilaabaya ilaahay tawfiiq hadin siiyo ilaahay ilmihiina reerkiina allah idin xafido dhamaan sportiga oo dhan gaar ahaan basketballka waxaan idin xusnay waxa waaye inta hadda dhimatay ugu dambeysay macallin John iyo maarkano magaciis maxaa ahaa engineer Bana horta allah naxariisto iyo Cabdidheere macallin Cabdidheere oo ka horeeyay inta dhimatay lama soo koobi karo annagana gadaashood ilaahay nama fidnay waxaan arintan isugu soo qaadno waxaan dhahaynaa bal legendkii bal inkastoo ajlooyin badan lidii ku duubay laakiin wax oo xogayr oo maarkano magaciis maxaa naftirkeeda taariikh badan oo waxa jira oo idinka ilaalin jiray adle lagu wareeysan jiray bis laakiin waxaan rabaa adiga inaan madowga ka hadashid madowga Abu Kurshiin ka hadlo oo Abu Kurshiin Barjab ka hadlo Barjab ana ma biga hadlaysiin laakiin Ahmed Daahir ka hadashin lacala tusaale waa annaga maarkano dadka juniorka iska ee masaakiina iska nahay marka insha Allah waxaan rabaa koo hortar inaan qof walba taariikhdiisa yar oo ku bilaabo 3 minutes or 4 minutes ama 2 minutes whatever it is with the respect waxaan ku bilaabeynaa maadaama la kala weyn yahay oo madow laga weyn yahay Abubakar Maxamed Amarkan Abu Kurshiin aan ku bilaabeynaa insha Allah taariikhdaada oo kooban welcome hortar marka hore aadan kaaga hambalyeynaya waa istaalayno bilaabo liiderkeena waa afkool waa mahadsan tahay runtii programkan iyo ama qorshahan aad ku soo dabariday aad ugu mahadsan tahay saaxiibkay madow oo meesha ku jirana macnaha runtii aad iyo aad ugu faraxsanahay oo muuqaalna aan u arko runtii waa wax loo dhigi karo ma laha salaan kadib afkool ani waxa waaye magacayga oo dhan waa Abubakar Axmed Maxamed dadka waxay ii yaqaaniin Abu Kurshiino magacaasna wuxuu iiga baxay waxa waaye walaalkii Abduqaadir Shiin la dhihi jiray marka aniga aan ka imid afgooya ayaan deganaan jiray meel dooraa la dhahay tuulo oo annaga aan aabey digaaga aan ku xanaanayno iyo beero aan ku lahayn ayaan runtii meesha ka nimid oo aan shigaani nimid ayaa dadkii way aqoon waayeen marka waxay yiraahdeen yaa waay ninkan waa Abduqaadir Shiin walaalkiis way markii dambana waxay noqotay in oo aniga marka kubadda ciyaar dadkii ay barteen marka aniga waxaan noqday Abu Kurshiin sidii ay dadkii igula baxeen marka saas horta magacaas ku yimid marka aniga waxaan ku dhashay Baydhabo ku dhashay sanadadii oo maarkino xurriyadda la qaadanay area marka anoo 5-6 sano jir ayaan Baydhabo ka soo tagay waxaan ku koray afgooye meel u dhow oo tuula ku taalo maxaan warahay meel yiraahdo doona usuuro agteedii oo marka ulama meeshii waxa loola magac baxay Dooraale meeshii mooski iyo laga soo saaray ayuu ahaa waxaan ugu dhawaa meeshii mooska laga soo saaray oo la yiraahdo azendada Gino iyo Sensibeli iyo dadkii yaqaanay marka ala kulli xal meeshaas aan ku soo koray runtii hataa waxaan meeshaas ka samaystay garoon basketball ah ama aminin waxa waaye garoon basketball meesha ku samcanaana dhisay markaas kadib ayaan afgooya ayaan xoogaa ka ciyaaray markaan laakiin Shingaani aan imid ayaa basketballkii runtii xoogiisii meesha aan ka bilaabay laakiin inta ka horreysay xoogga waxaan saaray kubadda cagta ayaan saaray ala kulli xaal ayaan warku ugu dheerayn markii Muqdisho aan u soo wareegay waxaan ku biiray naadiga Muqdisho anigoo isku dayay inaan koox ka mid noqdo aan u ordaayo madow madbacada waa kaga horeyn lahaa nasiib xumo laakiin dad iga wanaagsan ay joogay markaas oo waxa la yiri insha Allah
next year imow marka waxay noqotay inaan isla markiiba aan dowladda hoose munishibi u ordo munishibi markii dambe ilaahay ha u naxariistay axmedey forma ayaa markaas yiri waa ku qaadanaya sidii ayaa juniorkii munishibi aan ku noqday 77 aan leeyahay 76 dhamaadkeeda 77 iska leh markaasaa juniorkii oo markaa la aas-aasay kooxihii juniorka ayaan ka qayb galay kadibna 77 markii dhammaatayna isla markiina waxaan ku wareegay naadiga muqdisho oo aan kooxda heerka koowaad aan ku biiray kadibna markaas kadibna 78 ayaan ciyaarnay waxaan nasiib wanaag macnaha wixii markay isku ka aadayso waa waxay oo ilaahay ku siiyay waaye marka meeshii waxaa markaa ka baxayay Rashid Doob iyo Cabdirashiid iyo Fuaad iyo Sirxaan iyo groupkii oo markaa munishibi runtii basketballka naadiga laga soo gaaray ayaa meeshii ka baxayay marka annaga booskiyaa buuxinay marka sidaas ayaan munishibi ku noqday oo Serie A ku noqday 79kii marka 78 dhamaadkiisii ayaa Art Duran yimid macallinkii Mareykanka kadibna 79kii ayaan waxaan ku biiray xulka qaranka Soomaaliyeed runtii marka hore tryout-kan ka qayb galay waa ku guuleysan waayay aniga iyo saaxiibkay Cabdi Cali waxa la yiri ilaa 20 ugu dambeeyaan galnay marka dambena waa suurtagal waa noqon weysay dad badan oo aad nooga Cabdi Cali waxa ku daamiya Cabdi Cali Cabdi Cali warsame okay marka dambena waxa la yiri ala kulli xaal xulkii kama mid noqonin marka group badan oo naga firfircoona ayaa meeshii ku jiray sidaas marka ayaan ugu soo harnay isla 3 bil kadib ayaa haddana la ii yeeray oo Andriana ilaaha u naxariistay igu yimid Shingani oo iga kaxeeyay oo yiri waa ku baahanahay xulka qaranka markaas aan aadaan ugu farxay runtii marka sidii aan xulka ugu biiray alxamdulillah adiga 79kii maalintaas aan xulka ku biiray anigoona ka bixin xulka ayaan dibadda uga soo baxay adoo ku wadatid Andriana muxuu mar labaad kugu wacay oo dadka kale oo marka horena lagu raacday oo lagu soo wacay wallahi horta arrintaas arrin oo macallimiinta ay qusayso waayo ninka Art Duran wuxuu ahaa macallin caalami u ahaa runtii Andriana ilaa u naxariistay waxa runtii labadoodii ayaa iska kaashan jiray waxyaabaha wax walbana way qori jireen annaga markii intaas 20 qofood 30 qofood oo ka qayb gashay meesha maalin walba qof walba wuxuu sameeyo shaqada uu qabto wuxuu ku fiican yahay ayuu gaar u qoran jiray marka waxa aniga kulli isleeyahay ama hubo laakiin waxaan isleeyahay marka Cabdirashiid Balastika jiray oo gacanta midigta aad ugu iyo bidixdaba aad ugu wada jiray kubadda marka dadka bidixda way ku wada jireen kubadda laakiin ninka kaliya aan isdhahay oo Cabdirashiid uu ahaa marka ninka kaliya ku soo xigay oo labada gacmood kubadda ku wada kari anigoo ahaa marka waxaan isleeyahay marka iyo difaaci wixii kulli macallinka asaga yaqaan sababta uu kugu yeeray laakiin annaga kulli waqtiga lagu jiray maba ahayn waqti oo la kuweeshan gareeyo maxaad su'aal la weydiiyo oo la dhaho maxaad hore la iga tagay hadda la ii qaadanaya ma taal mar alla markii lagu yeeraad isxaadirinaysaa sida askarti marka sidii aan xulka ku tagay alxamdulillah si fiican la ii soo dhaweeyay sidii aan uga qayb galay ilaa yoomina haadan macnaha xulkii ayaan ka tirsanaay marka alxamdulillah saasay horta sheekada xulkii iyo taariikhdeedii ay ku bilaabatay marka kadibna xulkii ciyaarihiisii waxaas iyo madoobe baa Rajab oo marka dambe soo galay madoobe Sheekha dad badan oo runtii aan la soo koobi karnaa mar dambe ku soo biiray oo marka sheekada meesha waa kasii wadi karnaa marka haddaan wax qaldana waa isixi kartaa inkastoo aad naftarkaa nin yar tahay oo aad waxay badan ka xasuusinin
ay Abuukar waa dhamaystirtay maleyna ilaa hal hooba dhamay oo dhimay wali qarankii oo 79 marka ma dheeshay oo jaamacadda carabta kaas uu ahaa maleyna jaamacadda carabta marka waxa aanu xareysneen runtii dad badan oo firfircoon ku jiray aniga Qardhaas iyo Xasan Wacdi waxaan ku ahaan 15 ayaan kooxda ku ahaan kooxda waa kamid ahaan laakiin nasiib daro ciyaaraha gameska ma aanan safanin marka isla 79kii markaas markii ciyaaraha carabta aan qaadnay oo koobkii aan ku guuleysanay waxaan u gudubnay waxaan hadana aadnay Sacuudiga marka tii Sacuudiga ayaa iigu horeysay inaan banjiga ka soo kaco oo aan ciyaaro marka taas Sacuudiga aan ku soo ciyaarnayna ciyaar macnaha runtii aad u fiican ay ahayd laakiin xogaaya waa ku guuleysan weeyni maadaama carabtii oo dhan waxay isla haysan kooxda Soomaalida carabta u hogaaminaysay macnaha runtii aad iyo isku xoojiyeen wadan kale markaad ku ciyaaraysidna isku mid ma aha madow ka warqabay marka wadan kale ku ciyaaraysa xaaladeedu waa iska adag tahay meesha xirfado badan la isticmaalaa inkastoo ciyaaraha ay ka mid yihiin macnaha marka kadib 79kii marka meesha ku soo ciyaarnay kadibna waxaan ku soo noqon hadana wadankii kadib hadana waxaan noogu soo horeysay u maleynaa ciyaaraha hadana 81kii ayaan noogu soo horeysay oo Morocco ayaan ciyaarnay oo kaalin saddexaad aan galnay iyo maxaan ku raahdaa ciyaarihii kale oo maxaan ku raahdaa oo kadibna waxaan aadnay Morocco adiga dhowr jeer Morocco laba mar aan aadnay marka labada waqti 81kii iyo 83 aan u maleynaa inaan kala aadnay oo runtii laakiin waxa guul la taaban karo ciyaaraha oo hadda la xasuusto waa 79kii iyo ciyaarihii oo aan ku iraahday 79kii 81kii oo All African Gameski asagana oo runtii oo bilad aan ka keenay waxa kaloo soo raacdo ciyaar oo hadamadu waa xasuustaan u maleynaa oo Egypt aan la ciyaarayni oo runtii taariikhda baal dahab uga gashay oo aan la filaynin macnaha Egypt oo number 1 ka ahayd Africa oo dhan in aan macnaha si aan lama filaan aan uga badinay oo aan aad xusuustan aad ugu jirto marka taasna waa xusuusta ay gashay waxa ayadana jirto markii dambe ciyaaro badan ka qayb galnay oo macnaha Jordan ayaan aadnay waxaan aadnay Egypt aan ku noqonay Kenya la aaday oo madoobi oo nagu jireen hataa ayaa madoobi xasuustaas aba ka sheekayn doono marka runtii ciyaaraha way badnaay hadda waxaan soo koobi karo ma aha laakiin runtii aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay inaan calanka Soomaaliyeed qaadno oo aan meel kasta ka surno oo aan ku dagaalano ma fahamtino runtii wadanka inaad u dagaalanto kaliya qore caaradiisa laguma dagaalamo waxyaabo badan lagu dagaalamaa marka tanna qayb kamid ayay ahayd marka oo aan geynayni calan aadan ugu faraxsanahay inaan ka mid noqdo ilaa iyo maantana aan dareemayo runtii oo aan u maleeyo weli inaan qarankii ku jiro inkastoo oo daada ii diidayso ما شاء الله أبوك أنا هذا كلام هذا علني على اللجن هذا أو فرحسنا هاي إن أنا ماركنه مقعس مع سوشيال ميديا أنا جالس وقيب قشيد إن محمد هذا حرسي أو اللجن أو صافير سدي أسجنا إن كستو أن لا عيارين أو أن لا عيار هالمركلية ويلجي لكن أبو كرشين واحد بدنا وذ عيارنا ولكن إن أن لا عيار أنا جاي حقيقتها مقعي شرف حقيقتها أسأل أوريدي مال شو جسري الصومالي وكاري maxamed aadan xirsi bal welcome kusoo dhawaaw iyo historygaada iyo nagala soo qayb gal iyo maarkano kadib aan su'aalooyin idin weydiin doonaa ciyaaro badan oo xasuusanayo idin waaj gareynaya jiro welcome bismillaahir rahmaanir rahiim horta runtii aad baan u faraxsanahay inaan meeshan aniga iyo favorite playerkayga Abu Kurshiino inaad aan maanta social media ku wada jirno anoo sawirkiisa fiirsanaya iyo adiga oo opportunity-gan iyo chance-kan siiyey runtiina aan siiyey fursad aan uga sheekeyno dhalinta hadda maanta joogta wixii aan ka soo qabanay Soomaaliya iyo sida ciyaartoyda aan u ahayn xagga aniga waxaan ku dhashay magaalada Muqdisho xaafadda Howlwadaag 60meeyadii waxaan marka hore aan ciyaari jiray kubadda cagta ilaa laga gaaro
toddobaatan iyo lixdii aan waxaan jeclaaday basketballka meeshaasaan waxaan uga leexday kubaddii cagta anuu sii cayaaraya laakiin favorkeyga ugu horreeya sportska wuxuu noqday basketballka toddobaatan iyo lixdii waxaan ka soo cayaaray waxaan ka bilaabay laamankii degmooyinkii dugsiyada hoose dhexe dugsiyada sare kadibna toddobaatan iyo sagaalkii waxaan u saftay gobolka banaadir oo aan koobka meeshaan ku qaadnay oo ciyaartooy aad u fiicneed waqtigaas aan isku mataqaanaa aan isku tiim ahayn waxaan soo galay Zeer Aada 80-meeyadii ayaan soo galay xulka qaranka igu horeysay oo lii magacaabay wuxuu ahaa 1983 maray u socdeen aan u maleynaa inay u socdeen Jordan iyo meelahaasay u socdeen waa ka tegay aniga markaas oo waxaan aaday halkaas iyo Ciraaq haddana waxaan ku soo laabtay waddanka 84 qarankii igu horeysay aan u saftay waxaa igu horeysay 85 oo aan aadnay Morocco markaas Abu Kurshiine ayaa ka tirsanaa kooxda 79kii ilaa iyo waqtigaas way ku jireen qaranka asaga iyo ciyaartoydii kaloo fiicneed laakiin aniga qaranka waxaan soo galay 1985 ciyaarihii Morocco lagu qabanayay ee jaamacatul carab ahayd runtii aadan ugu faraxsanaa oo markii ugu horeysay hadda waddanka sii joogi lahaa 83 waa geli lahaa ayadoo markaas lii magacaabay ayaan isaga tegay waddanka runtiina markii dambe aan xulka qaranka ku biirana waxay ahayd farxad aad u weyn oo aan la soo koobi karin sidaan ugu farxay inaan ku biiro qaranka aan matalo ummadda Soomaaliyeed iyo calankayga aan matalo 85tii waa soo dadaalnay ciyaartooy aad u fiican way joogtay kama soo qaadin koob iyo bilatoona mayna soo qaadin laakiin meel fiican oo aan ku faraxsanayn markaas waqtiga la joogay waa soo gaarnay intii kale waxaan u ciyaaraya naadiga madbacadda waxaan ku biiray 80kii aan ku biiray Zeer Aada ahayd ilaa iyo waddanka aan kasoo tagana ayagaan ka mid ahaa marka taariikhdayda sportska ah waa intaas kaaga mahadcelinayaa aniga waxaan u haystay Urdun inaa maarkano ciyaarahaas kugu horeysay anaga dadka fiirsan jirayaan nahay oo markaas oo maarkano magaciisa muxuu ahaa I think ina Urdun aadeen kulligeena u wada haysanaa maanta laakiin waxaan oo ofisay in lagu magacaabo laakiin baxday waa iska yaraan anaga markaas AD grade 9 aan iska ahayn laakiin ma sha Allah maanta taariikhdaada oo saxday hadeertaan aan haynaa laakiin you qualify absolutely ciyaartooy waxa ahayd oo ma sha Allah oo aad iyo aad heerkiisa u sareyso waa aragtay marka qaran al xulal xataa dadka banaanka jooga way xuli jireen yaal xula Abu Kurshiine yaal xura madow yaal xura Baarajib yaal xura Cabdul Dheere waa dadka laba iyo hal qofood marka dambe waa gafi kartaa laakiin inta majorka la xuraayo labadiina number 1 ahayd sida ugu soo adiga aad ugu mid noqotay iyo Abu Kurshiine soo qaran ahaan baa aniga aan soo gaaray oo ma sha Allah 1981 aan u noqonayaa adigan waa fiirsanaysay waxaa jirta habeenkaasi habeen taariikh ilaahay ahayd 8kan ka soo baxay markaasaan dugsiga caafimaadka aan soo galay oo dugsiga sare All African Gameska habeenkii 10 la ayaa la cilaamiyaa la dhahay caaw waxa dheelayo Egypt iyo Soomaaliya ciyaaray isla markii aan baawar xaajiye oo maarkano meesha xaafadeena ayaan inaan soo qaadanay aan istaad Muqdisho ku dhimaanay alxamdulillah sports aan u jecelnahay waa Madiina laga soo baxay ilaa meeshaas habeenkii ninkii qudbeynaya Abu Kurshiine oo ka warqaba maleena habeenkaas Algeria maleena isku dhibcay inaan noqonay somehow aan anaga wax ugu qaadnay habeenkii dhagaxyaal iyo waxbay soo turtuurayeen aniga Ivory Coast aan la fadhiyay dhinacoodan fadhiyay English aynu ku hadlaan iyo maarkano magaciisma luqadda si fiican u yaqaanaan English iyo Faransa labada way yaqaanaan marka waxay ka baqayeen Soomaaliya 100% inay soo baxdeen instead Egypt ay soo bixi lahayd ninka qudbeynaya habeenkii wuxuu yiri anagi maadaama oo Algeria laga soo tagay anagi Egypt walaalaan nahay waa iska reer baadiyo ahay oo maleena hadii uu gafanahay iga raal ahaada qaran marka loo dheela walaal ma jiro walaalka waa calankaaga walaal ah idinku waxa u bixi jirteen calan Soomaaliya u bixi jirteen calan Ethiopia iyo calan Egypt mu bixi jireen calanka Soomaaliya ku dhiman jirteen oo dhaawac idinku soo gaari jiro gurigiina iskuulkiina u tagi jirteen iyo mas'uuliyadiina
habeenka marka wuxuu dhahay Abukar ay sii doono wuxuu yiri hadii Egypt dhalisana walaalkiin waa loo sabciyo Soomaaliya hadii dhalintaan loo sabciyo habeenkaas waa habeenka annaga aan ma arkino ugu rooneen on maanta whole African game aan xataa Ivory Coast aan ka qaadi lahayn believe gareysanahay marka Abukar waa bal arintaas ay ku dhacday ninkaas inuu saas u cilaamiyo habeenkaasna qalbi jibiyo say ku dhacday welcome Abukar wallahi horta annaga ciyaartooyaan ahayn badanaaba kuma mashquulsaneen runtii waxa oo ay dadka macnaha madaxda ah ama dadka oo siyaasiyiinta ah ay meesha ka sheegayaan runtii dhegna uma dhigi jirin kolley laakiin shacbiga xoogaa buuq kiciyey oo macnaha runtii oo qayliyey kolley asagana kolley waxaan u malaynaa isaga dhinaca siyaasadda unbuu ku arkayay oo Egypt inay dad walaalaheen yihiin laakiin wuxuu meeshii waxa ka baxday haddii kubad la ciyaarayo ay laba walaalo iska soo horjeedaan ay wada ciyaarayaan meeshii waxa loo ciyaarayaa si inaan la aqoonin oo waxa loo ciyaarayo oo aan ma arkino kooxda ka soo horjeedo waxa loo arkaa cadow doesn't matter qofkii uu yahay garoonka markii laga baxana markaa qofkii walaalka way annaga dhexdeena saa u ciyaari jirnay annagoo madow markaan la ciyaarayno oo madbacada iyo munishibi ay dheelayaan aniga asaga laba qofood oo cadow isku ah ayaan ahayn ciyaarta markii laga baxo oo xariiqda ciyaarta banaankeedii la gaaro waxaas waa dhamaadeen sportiga intaas oo macnaha ahaa marka runtii marka habeenkii waxa moodaa shucuurtii siyaasadda ayaa ka xoog badisay shucuurtii oo sportiga marka aniga wax dhiba weyn uma arkin laakiin dadkii aad u qayliyay laakiin annaga karaankeena kulley meesha waa dhignay dadkina waana support gareen wax isbedelay ma jirin alxamdulillah marka intaas kaliya ka dhihi lahaa habeenkaas waxaan xasuustaa labada jaasti iyo personal in ogala badiyaan umaleynaa sidaan umaleynaa mise laba something like that labada jaasti ugu dambeysay adiga geeskaas meesha hadartan 3 pointiga meelahaas labada jaasti ugu dambeysay adiga ma arkin oo u dhalisay Soomaaliya sax xasuusanay bal maxaa ka xasuusataa legend Maxamed Aadan Xirsi madow maxaa ka xasuustaa habeenkaas kolba laacibna waa maxaa u lus gareen anagoo gurigeena joogay ciyaartooydeena ay fiican yihiin oo maasha Allah walaalaha ay yihiin ka horeey adiga maxay ku lus gareeyeen ma macalinka xaqiisa ma ciyaartooydiya daashay ma physicalkooda waxaysna marka way aragnimadaada afiirisid welcome aniga hadda ku soo laabtay marka ciyaartaas waa fiirsanayay ay dheelayeen Egypt iyo Soomaaliya arrintaas ay sheegaysa dadka tarbuunka jooga ka mid ah wax xasuustaa laakiin ma ahayn issue-ga taas waxa looga badiyay horta runtii national teamka markii la Soomaaliya waa markii ugu xooganaayeen oo ciyaartooyda ugu fiicneed ay ciyaarisay waa 1979kii iyo ilaa laga gaaray 1981kii iyo waqtiyada ugu fiicnaayeen oo meel walba aan ka dhisnayn hadday bountyguard noqon lahayd hadday center noqon lahayd wax noqon iyo even xitaa coachinga Arte Durana coach ka ahaa meesha waxaan ula ka badiyay iska mataqaanaa gameka waa dadaaleen si fiican ay kooxdeena u dadaaleen wax alaala wax meel walba waa buuxiyeen laakiin hadday marka game la ciyaaro waxa way qolaa ku badinaysa sidii Egypt ku badisay laakiin meel laga dhaliili karo kooxda oo national teamka Soomaaliya anigu markaas ma arkaynin laakiin waxa arkay iska nasiib inay ku badiyeen magaciisa muxuu kooxihii Abukar Sheene ma xasuustaa 79kii dadka ciyaarayay 81kii dadka ciyaarama isku mid ay ahaayeen mise qaara idinka baxay ilaa 81kii dad badan ay soo galay Cabdiqaadir Dhamo waa xasuustaa 81kii goolka Banaadir Dheele Cabdalla waa xasuustaa rookie oo ahaa Baarajib waa xasuustaa rookie oo ahaa magaciisa muxuu ahaa yaa kaloo rookie ahaa Axmed Muuse rookie oo ahaa I believe so haduusan ku jirin kuwii hore qardaas ma aqaan inuu ku jiray in kale bal 79kii dadkii dheelay ayaa ka mid ahaa oo 81kiina oo dheelay Ahmed Daahir kaloo taa ka mid ahaa bislaa xasuusta inta kale horta Baarajib 81kii rookie ma ahayn Baarajib Serie A-dan isku maraan bilownay ciyaaraha juniorkii oo ama heerkii labaad isku maraan ayaan ciyaarnay hal sano kaliya uu iga dambeeyey 79 wixii ka dambeeyay asna waa 80 uu qaranku soo galay marka
horta 81kiina wuu joogay laakiin ciyaartooyda oo runtii oo sida madooba uu sheegay oo xoogaa yar kala duwanaanshaha keenaysa waxay ahayd nin la dhahayo ciyaartooyga weynaa cadaawe dheere ayaa joogay oo xoogganaa isla markaana nin caqli ku ciyaaro ahaa nin dheereeya ma ahayn laakiin nin caqli ku ciyaaro oo dheerna wuu ahaa xoogganaa oo dadka la ciyaari karo runtii waxaa kaloo jiray Awees Daahiye oo prime timekiisii ahayd isagana oo 79kii baan dhihi kara heer macnaha 79kii asaga iyo cadaaway ahaayeen dadkii meeshii oo guusha ka keenay xoogeedii oo runtii waxyaabo cajiib la sameeyey marka dadka dhaadheeray ahayd macnaha waxay ahaayeen dad oo waagi dambe aan heli weynin waagi dambe dad gaagaaban dad oo meel dhexaad ah waa haysanay madoob waa la socdaa dadkii dhaadheeraa ayaan macnaha oo 69 waa nagu yaraa ma haynin haddaan haynana mid kaliya ahaa marka horta differencega kaasoo ahaa marka laakiin dad ciyaartooy oo fiican oo cajiib leh oo aad u fiican baa Rajab joogay waxaa joogay Bashiir Foxa joogay Ahmed Musa joogay Ardaasa joogay maxaan ku raadayay 79 waa leeshan ma ho 79 inay ugu fiicnaayeen aan jeclahay exactly ko 79 cadaawo dheere afweene ninka la oran jiray Awees Daahiye and dadkaas aad u dhaadheerayeen Bashiir Fox waa dheelay Soomaa 79 Bashiir Fox waa dheelay 79 waa halbowlayaashu ka mid ahaa okay Ahmed Daahir dheelay maasha Allah oo asagana halbowlayaash ka mid ahaa okay Nuruddin dheelay 79 Abdurrashid Balastika dheelay marka nin la dhahay Santuro reer holwadaaga madooba xasuustee oo xoog lahay Santuro ayaa dheelay Allah naxariisto marka Allah naxariisto Allah naxariisto marka ciyaartooy aan macnaha runtii aniga dad badan aan la soo ciyaaray marka qaarkood magacyadii ay xasuustii ayaa ii goynayso laakiin waxa waaye ciyaartooy oo badan aan soo marnay oo runtii warta 79kii macallinkan uu nala joogay Arta Duran oo macallinkii noogu fiicnaa aan isdhihi kara ani ahaan Abuukar ahaan oo dibad laga keeno laakiin 81dii I believe all of can games I don't know Arta Duran inuu nala joogay in kale ma xasuusto laakiin Arta Duran dhiiwan ka mid la joogin inuu naga maqnaayaan jeclahay way ka maqnaa yaa macallin idin ahaa marka yaa macallin idin ahaa marka qaranka I believe inuu Cabdilatiif ahaa اسمها مدو ما حسستها عبد اللطيف معلم كياس اوكي اسيستنت ني ايديها اسيستنت والله I know Ibrahim Ruqya oo naxariista ahay aan garanaynin Andriana ma helmiya maya Andriana markii 79 wixii ka dambeeyay waa ka tagi qarankii asaga iyo Axmed Carab qaran kuma soo noqon Soomaaliya waxa soo martay ciyaartooy waxa wada dheesheen dadna waa idin ka horeeyeen dadkii idin ka horeeyay anaga waxa maqli jirnay shanta jeeya maqalin jirnay dadkaas iyo Gees iyo Axmed Americano magaciisa muxuu ahaa Axmed Xaaji iyo dad badan aan maqli jirnay Rashid Obkan iyo Cabdishid Balastik iyo Shiinu Guhaado waagaas asagana dheeli jiray iyo dad badan oo hadda inta aan tilmaami karin bal dadka hore mal ka warrama labadiina 76kii dad junior ay ahaydeen isla soo bilaabay inkastoo Americano magaciisa muxuu Zeer aad 1 sano iyo 2 sano kaga horeysay Americano madoobe bal dadka hore yaa ka tilmaami kartiin oo isleedeen dadkaas wallahi hadaan la dheeli lahaydeen idinku waqtigiini unbelievable ahaan la maadaama labada qofood oo gaar ugu fiicnaa ever Soomaali Soomar aan lidin aqoonsan yahay labadiinaba oo geesiyaal ay ahaydeen oo maasha Allah anaga magac idin hayno bal dadka hore bal xogaaran 2 minutes bal ama 1 minute whatever aan la share garin kartid inta soo aragtay Abuukar adigu bilaabo ku soco
maya wallahi dadkii naga soo horreeyey aniga kuley ciyaaraha waa fiirsan jiray waa ka horreey macnaha shantii jeenyo oo maalan haddaan ku bilaabo waxay ahaayeen dad cajiib leh maalan waxaa ku jiray axmed xaaji nuur oo shuudka la dhihi karo marka dadka maanta NBA da ku jiro ayuu la tartami karay markii shuud ay timaado oo dhalin karay waxayn karay boodadiisa fiicneed orodkiisa fiicnaa cabdilaahi macalinkeyga ilaaha u naxariistee oo runtii aan moodid qof aan fursad kubadda kaga dhuntaba aan ogolaan jirin markuu ciyaarayo oo runtii kubadda markay ay soo gaarto ama gooshay aadaysaa ama qofkii saaxiibadiisa ayuu u baasi jiray waxaa kaloo jira Siciid Qorsheel oo runtii oo nin aad u maskax badan ahaa oo asagana gaar ahay oo jeenyo u ciyaaray xisaabtamayay waxaa kaloo ku jiray Maxamuud ayaa joogay oo runtii aan marka oo runtii dadka oo runtii blogga gudaha markaad geshidba oo difaaciisa cajiib lahaa oo aan la dhaafi karin gees miya ninkaas taasoo dhan marka intaasoo dhan isugu soo duubduub laacibka gees la yiraahdo ayaa jiray oo aniga aan fiirsan jiray oo ilaahay hadaayad u siiyey basketballka oo runtii oo wax walba ay isdhihi karo meel walba wuu ku fiicnaa difaac markay noqoto weerar markay noqoto kubad dhiibidiisa markay noqoto aragtidiisa markay noqoto shuudkiisa markay noqoto adiga meel magacaw ninkaas uu macnaha dhirirna wuu lahaa oo haddaanan qaldaneen wuxuu ahaa 6 feet iyo 6 inch ayuu ahaa haddaba 6 feet iyo 7 ahayn macnaha runtii boodana wuu lahaa waa ciyaartooyga runtii aan aad ula yaabay ayay ahayd inkastoo uusan ku raagin basketballka kuma uu raagin wax badan ma joogin marka intii uu joogayna runtii geeska Afrika waa dadkii laga yaqaaniyo ku jiro dhinaca kale Munishibi oo kale ayagana waxaa ku jiray Cali Cusmaana ku jiray oo gaar fiican oo aad u maskax badan ahaa waxaa ku jiray Cabdirashiid ayaan ka xasuustaa ina Muuse Boqoraa ku jiray waxaa ku jiray Cabdirashiid Dooba ku jiray Rashid Waaliya ku jiray oo runtii ciyaartooy aad cajiib leh waxa intaasoo ayagana oo dheer oo Munishibi aan ka xasuustaa Sirxaana ku jiray oo maanta on la iloobi karin oo runtii basketballka Soomaaliya wax badan ka bedelay oo dadkii dheeraan oo aad ugu dhiiriyoodeen inay soo galaan basketballka runtii aniga islama ciyaareen Sirxaan laakiin waan as aragnay mar oo dibadaha Carabta ka yimid يعني وماشى عيارة وناشنال تيم كميدة أي وان دور جير أيام isku aragnay haddana وكل waxaan maqlay inuu dhul kan oo Ethiopia uu joogo oo meesha uu iska joogo oo retire ku noqday ilaahay nin walba meesha uu joogo ilaahay ku nabad yeelo marka Fuad Fujua jiri oo isaga Nigeria uu ciyaaray Madhahe Munishibi oo macalinkeygana noqday marka dambe marka dadka lama soo koobi karo madbacadoo kale inkastoo aan isla ciyaarnay oo marka dambe aan isku soo gaarnay waxaa ku jiray Afweyni Cabdullaahi ilaa u naxariista Cabdullaahi waa ciyaartooy wax walba u dhan yihiin oo ahaa runtii oo markii dribble ay noqoto shooting dunking difaaca national teamkana wacnaha asagii Awees Daahi oo kale markay ku jiraan waa iska ogtahay gool dhaliska dhib kuma qabtid waa ayaga easy u dhalinay si sahlan ay ku dhalinay marka ciyaartooydaasna meeshay ku jireen weli madbacada waxa uu ciyaaray ninkii Santur aan ku sheegay asagana ayaa u ciyaaray oo asagana aan iloobi karin dadku way badnaayeen macnaha hadda la soo koobi karo ma aha waxa kale oo asagana horseeda jiray asagana oo Cali Faarax ayaa u dheeli jiray oo joogay oo national team ka tirsan inkastoo aan isla ciyaarin Cali Sharlaay asagana dadkii hore ku jiray nin dheerna waa ahoo maskax badan oo aad u dadaal badan garaada joogay oo horseed u ciyaarayay asagana oo markii dambe national teamka aan isla soo galnay waxa kaloo jiray Marlona ciyaaray Shiisa ciyaarayay Badweyna ciyaarayay adiga lama soo koobi karo dhuxulo waa jiray oo asaga national teamka ku jiray oo ciyaarayay oo ciyaartooy aad fiican ahaa haddaad aado dhinaca inta banaana aad waagii inta banaana la dhihi jiray adan markam Somali fruit iyo Somalita iyo loo bixiyay waxaa jiray
macallina jiray oo joogay oo si fiican u ciyaaray oo cajiib lahaa waxaa gaar ahaa oo national teamka dhowr sano oo ciyaaray waxaa ku jiray oo kale cali cusmaan walaalkiisa ku jiray arkey yaa ku jiray aan dhehe cali cusmaan walaalkiis maaha arkey cali cusmaan walaalkiisna waa ku jiray oo qayb weyn oo ka qaadanayay arkey ayaa soomaaliya ciyaaro cajiib lahaa isagana waxaa ciyaarayay sayjantaa ciyaarayay cumar riika ciyaarayay waxaan ku yiri dadkii lama soo koobi karo afkuul macnaha haddii naadi kasta aan u baxno marka naadida aaday u cuslaayeen imaaqa haddama soo wada tirin karo waxaan u maleynayaa 16 naadi ayaa ka dhisnay ka badan Soomaaliya muhiimadu anaga labada qofood ama saddexda qofood oo maarkano maadaama location Jenya laga bilaabay bal maxamed aadan xuseen aan siina bal asagana waqtigaas uu kula bilaabay afiirsasho inkastoo asagana dhalinyarada uu ahaa afkuul aye ninkii la yiraahdo waxaa jira asagana ganacsiga ayagana saddex qofood ayaa national team ku soo biirtay oo runtii Axmed Daar hore ugu jiraba asagana iyo Shiina Guhaad iyo Zuzu ayaa soo galay ayaa ku jiray ayaga laftigooda oo in xasuusto u baahan oo runtii ay batroolka ma sheegin laakiin batroolka hadda soo socdaa batroolka ayaga laftabarkii waxay ahaayeen oo Qatraas iyo Bashir Fox iyo Axmed Muut iyo national teamka ku jiray maraan ku sheegay saddexdooda ogta marka soo celiskoodi waxa kale oo batroolka ku jiray nin cajiib lahaa oo la dhihi jiray Cabdiqaadir Macallin waxa waaye runtii asaga laftigiisa lagama faa'iideysan waxa uu ahaa maba gafi jirinba waa cajiib aan kubadda gafi jirin oo fast break u socon jiray marka waxa la isku qabsan jiray Cabdiqaadir Macallin difaaca uu ka tagi jiray iyo difaaca kama tagi jiray mar asaas la isku qabsan jiray laakiin Cabdiqaadir Macallin ayaa ku jiray oo aad u xasuusto aan shootkiis aad ula yaabay runtii aan qof aan la dhiga aan lahayn ma fahamtay anaga laftirkeena kooxda marka shootkaas aan ku soo xasuustay waxaan anaga kooxdeedii Munishibi waxa ku jiray Cabdiqaadir Biina ku jiray oo shooter ah waxa ku jiray Cabdirasaaq Ugaas oo runtii oo national teamka maanta Cabdiqaadir Ugaas ka faa'iideysan lahaa I don't know meeshii oo ka seegay national team nin asiga kubadda sida rabo ciyaarayo oo sida rabo dhalinayo ayaa ku jiray macnaha Abdul Ali ayaa joogay inkastoo Abdul off and on ahaa marna ka baxay marna ku soo noqonay macnaha Yusuf Gershe ka waran marka waxa kaloo jiray laacab kale oo asagana oo cajiib leh waa Axmed Tukaa jiray oo mar dambe uu yahay asaga waqtiga dambe waay dadkii dambe waay laakiin asagana national team kama aanan faa'iideysan annaga waa ciyaartooy wuxuu ahaa oo runtii ciyaartooydii waaweyneed runtii wuu dhaafi lahaa laakiin maxaan kaaga sheegaa de waxaan ma garanaysa marmar baan waxaan u maleynayaa waxyaabo badan inay kulmaan waay si aad meelaha qaarkood aad u gaarto marka waa sii wadi karaa maanta oo dhan marka madowga soo gala sii wad abu kar madowga haye bal 1976 marka fiirsasho bilowday adoo yar ilaa inta shanta qofood aad ka samray laadahay waa la soo gaari doonaa laakiin bal shanta Jenya bal oo la sheegi jiray bal ka waran aniga ku soo gaarin fiirsashadoodii aad ku soo gaarin ma garan karo wallahi horta hore luujin aniga aan tago weliga horta fiirsasho buu tagin markii ugu horreysay aan tagana waxaan u ciyaaray iskuulka sare Regeneria oo aan ku dheelay Jenyo aniga shakadeeda waa maqlay waxaan ka arkay oo boon la ciyaaraya macalinkeygii Allah u naxariistay oo soo galay oo asoo markaa dibadda ka soo laabto ciyaaraha ka fariista Cabdidheer ilaa jannada hageey meeshaasaan ka cabir qaadan karaa marka macnaha Cabdidheer asagoo retire ahaa oo coach ahaa marka alla ciyaartid waxa ka jeclaanaysaa ciyaartooyda cusbeed ee markaas kula ciyaaraysa adiga haddii noqon lahayd hanaankiisa haddii noqon lahayd fundamentalka haddii noqon lahayd wax walba marka meeshaas markaan ka qiyaaso Saciid Qorshe oo la ciyaaro waxa iigu horeysay aniga asoo dheelay inaan arko markaan qurbaha imaanay weligii ma arkin ma waa arkay asagoo culus oo soo laabto waa arkay asagana oo soo cuslaa oo soo laabto waa arkay horta jey aniga weligii game ayagu ciyaaraya ma fiirsan bintu una imaad waxa iigu horeysay 1979kii anoo la ciyaarayo ciyaaraha scholasticada marka isra reebka oo semifinalka noo imaaday
oo aan u soo baxnay semifinalkana la keenay Lugano markaas ay igu horeysay Lugano ay maado horta ciyaartooyda Soomaaliya soo martay ciyaartooy aad fara badan ahaayeen laakiin aniga markaas aan joogo waxaan ahaa ciyaal xaafada ahaa waxaan ahaa ciyaal huludaag ma dhaafi jirin hodan iyo ay waabari iyo meelahaas iyo scholasticada iyo degmooyinkii waxaasan ku ciyaari laakiin waxaan huludaag soo martay aan ku arkay ama ciyaartooy badan aan ku arkay ayaa jirta waxaa kamid ah batroolka oo kale waxa uu ciyaari jiray Cabdi Faray oo Pontigar ka ahaa markiisa hore asagana waxaan maleynaa inuu ka tirsanaan jiray warshadaha inuu ka tirsanaan jiray Cabdi Faray waxaa ku jiray ilka casina dhigi jiray anta banana ahaa oo reer huludaag ahaa waxaa ku jiray Talios nin la dhigi jiray asagana oo ciyaari jiray macnaha imagine marka iyo Cabdisalaam Muuse Galaal John Gayo maxaa la yiraahdaa Sheekh Xeero Fuad Fujiyo oo xaafadeena ahaa Muuse Faarax Muuse Faarax runtii dadkiina tusay ciyaaraha inaan ku soo biirno ama jaceelkeeda dadka noocaas ay u hayeen huludaagna dad ciyaartooy aad u fara badan joogtay gabdhihii wiilalba gabdhaha samsama ku jirtay raaxa ka mid ahayd gabdho fara badan waa huludaag ahayn ku ciyaari jireen marka haddaan u soo laabto kooxaha marka aniga aan soo gaaray kooxaha amazingka ilaha aniga oo macnaha ishig oo la jaaljiray waxa kamid ah horseed waxa u maleynaa jay in la soo ciyaari jirtay markaas laakiin waxay ahaayeen veteran oo macnaha koox dhisan oo aad u xoogan ayay ahaayeen horseed for example oo wax walba ka dhamaystiran sida Abuukar sheegay dhuxulo oo kale aniga Mason oo ilaha Badweyne wuxuu ilaha Mason ana Pontigar oo ahaa Marlon Shiis Gayo Ali Faarax waa la ciyaaray oo ku soo gaaray soo dheelaya maxaa ku Awees Dahiyo kale it was amazing oo ahaa Municipio Ali Usmani yaa ku soo gaaray markaas iyo Abdul Ali Abu Kushino ciyaaraya Salaxaan iyo markaas market Mason teams ay ahaayeen ayagaba marka aniga loodkeyga markaan soo galay 79ka kuweeni waa weynaa oo kooxda aan ku rajaweyneen inaan ku soo gaaro way baabeen Abdullah Afweyne waa tagay Santur waa tagay Xasan Macalin iyo waxaan ugu soo haray iyo nin asagana Mason ahaa la jiray Xasan Faarax Keenan asagana Pontigar uu ahaan jiray madbacadda qaranka Ali Sheikh Allah u naxariisto Pontigar ahaa asagana uu ahaa madbacadda qaranka iyo nin la jiray Baydhabo Abdullah Baydhabo oo asagana madbacadda qaranka ahaa runtii madbacadda waxay haystay Mason team laakiin aniga markaan ku soo gaaray dadkii ugu fiicnaa way ka tageen marka revolutionka bedelaan kamid ah aniga iyo Bashiir Macalin iyo Ali Gure iyo Abdullah iyo grubada cusbaayo markaa soo galay ayaa ahayn 1980 iyo 1981kii soo aroortay runtii ciyaartooy macnaha aad u fara badan oo aad talent oo ahaay u qalmay levelka maanta professionalka looga ciyaaro in NBA-da ka qayb qaadan lahaa ayaa ka buuxa ciyaartooyda Soomaaliyeed marka wixii la jeclaysiiyeen anagoo kubadda cagta ciyaarayna waa ka garan kartaa oo meena dadkaas talentigooda ka aragtida ka baahasada kuwaas oo kala noqo su'aalaha haddaan ku weydiiyo annaga horta dhalinyarada markaan ahayn oo juniorka aan ahayn ama markaa idin fiirsanayna xulka waxbaan xuli jirnay markii adiga lagu soo xulayay laba qofood oo gaar ah oo number 1 Soomaali ah ayaa jiray adigana waa laga daba keenay waa walaalaha adiga few years ka horeeyay ahaayeen expectation-kaaga muxuu ahaa markaas hadaa soo geshid Benjamin noqonaysa kuwa ila meesha joogan way arag way laacibiin way walaalaha way laakiin baroni way mise waxa islahayd wallahi kuwan xataa waa moodaysa adiga number 1 noqonaysa bal xaaladaas ay ku jirtay iyo dhalinyaranimadaadii bal focuskaaga ka waran marka lagu dhahay national team aad tahay iyo markii la isfiiriyay ka dambe markii lagu daro 12ka bal funaanada ka waran oo baarjibna inta fadhiyo Abu Kushin inta fadhiyo bal ka waran arinteeda wallahi hadday noqoto arintaas oo waqtiga qofku uu isleeyahay markaan prepare u tahay national team oo igu horeysay aniga aan haystay waxay ahayd 1981kii waxaan filayay oo aan isdhahayay waa geli doontaa markaas waxa waaye 2 sano ciyaarayay waxaan soo galay 80kii iyo 81kii labadaba waa dhamaystay marka waxaan dhahay 81kii waa ka gelaysaa 81kii waxaa la dhahay dadka ugu dambeeyo loo magacaabo ay noqonaysaa runtii ma noqon in magacaabo horta waa ka xanaaqay taas laakiin ku jirtay dadkii selecting waa ku jirtay laakiin is xoreysay
ما كجيره مرنا من السوقين لكن اوكي 81 كان مرنا اللي مو لكن dadku waxay dhahayeen ina gashay ahayd horta frustration kugu badan dadku kugu abuuraya waa saaxiibada iyo mata dadku kula dhow ada abu kushina kala ha ada baarjab kala ha ada hebelo kala ha ada kan kala ha ugu hale nimanka waxay ciyaarayeen 1979 iyo 80 ila haddana ismaysan dhimin laakiin mar walba inaan soo galaan rabay laakiin markii ugu horreysay aniga qaranka aan macnaha dadku ugu horreeyay la magacaabo ahaa abu kushina markaas ugu maqnaa ma joogin waxay ahayd 1983 ahayd marka aniga dadkii ugu horreeyay oo la magacaabay aan ahaa unfortunately ma joogin waddanka waa ka tegey marka dad kala galeen waa dib markaan usoo laabtay 1985 waa galay abu kushino jooga iyo baarjab oo jooga oo labada point gaaro iga horreeyay ahaa baa sida ku galnay laakiin positionno kale ayaan ka galnay oo markii hore ka maqnaa booska sida nuurdiin cali saciid iyo haddii jooga lahayn kudbiyana ayagana mataqaanaa markaasna geli lahaayeen nuurdiin wuxuu ahaa mason blair oo ahaa cabdishe plastica wuxuu ahaa mason blair oo ahaa axmed daahir iyo waxaan kusoo gaaray iyo abu kushino iyo bashiir focus iyo afweyno gadaal looga soo wacay marka farxad weyn ay ahayd maantaasaan galay 1985 okay maadaama sidaas tahay adiga kolba from 80gii nin oo basketball garanaya ahayd marka who's your top 5 in Somali history marka lagu dhahayo 80gii ilaa iyo intaa kasoo bixaysa waddanka top 5 gaaraad soo bilaabaysaa shooting guard small forward big forward iyo center inta adiga la soo dheeshay qaran waa kolba qaran la soo dheeshay intaas ama markano magaciisu way ka horeeyeen aan leedahay shantaas qofood ayaa aniga aan tilmaami lahaa national team today inta aan la soo ciyaaray matala mis waxa kartaa inta players oo soo martay inta aad soo martay oo soo aragtay iyo inta la ciyaartay it doesn't matter from 8 ilaa intaas oo ku jirtay ilaa inta ka horeysay wali ma aadan arkin ilaa wax ma ka sheegi kartid okay inta aniga soo arkay oo aan ilaabi karin waxa kamid ah center waxa waaye cadaawo dheere ma la ciyaarin laakiin waa soo fiirsaday macnaha waa la dheelay amicaabulo waraa waxaa umalayna xataa asaga inaan la ciyaar asagii aadan deley aan kaa ilaabay waa la dheelay aadan deley iyo cadaawo dheeriya waa la ciyaaray markaas waxay xoolay u ciyaarayeen waa la ciyaaray iyo hantuuligii ayaga baxeen 80kii baxeen ayaga atika cadaawo inaan la ciyaaro umalayna haye okay cadaawo center 80kii buu baxay saasaan jeclahay saan maqlay laakiin abu kara nasaxay aadan deley kulli abu kara nasaxay kulli aadan deley waxa xustaan la ciyaara iyo kale waxa la jira Saciid Geesay iyo markay u ciyaarayaan waxooli haddee noqoto maxaa la ii sheeg forward macnaha nin forward waxaan ugu jeclaa ninka madbacadda qaranka u ciyaaraya Cali Abubakar Gaas cali heen ayaa علي أبو كرقاس علي قري كي مطبعته عياري علي قري مركن فوول مركن نقطة مركن نقطة بوينت جار نو شورين كار waxay noqonaysaa أبوكر أنا اسمه فول مان أبوكر wuxuu ahaa بوينت جار فول ما هي شورين waxaan ka hadlaa باور فويد ay sheegtay علي قري yaa idri magac small forward yaa ka dhigi lahaydaan ka wada الجوري small forward big forward yaa ka dhigi lahayd forward yaa ka dhigi lahayd big forward waxaan ka dhigi lahaa Awes Dahiye okay haye or either Abdullah Afweyne okay haye ma another waxaan ku hayaa shooting guard oo mataqaana ii sheeg ama baalkiya Nuruddin Ali Saciid the best shooting guard ninkaas aad dhihi lahayd ha okay haye Nuruddin Ali Saciid waxaa kaloo aniga runtii aan aad u jeclaa oo kale asna favorite-keyga wuxuu u badanayaa point guard-ka ninka la yiraahdo ninka original magaciisa muxuu ahaa gacmaha waaweynaa boonsa u qaban jiray horsadu ciyaarta hadda magaciisaan sheegayay Marlon he was complete player ما شاء الله okay that's very good markano magaciisa maxaa concept shan qofood oo waxaad dooratay oo amazing because maadaama gaar aad tahay oo kulli aad fiirinaysid qof walba adaa ugu dambaysid ilaa kulli waa arki kartaa ayaga kuma arki karaan waa ordayaan ayaga aad was amazing player
marka my goodness okay abu karshine u galayna insha Allah raal ay abu kar maadaama 79 ka horna asoo fiirsatay iyo ilaa iyo 1988 ka wadanka inaad joogtiyaan jeclahay bal top 5 oo kugu fiican markano gaar ilaa center oo adig maskax ahaantaada leedahay the best of the best waa shantaas qofood welcome wallahi waa adkaanay waxa waaye aniga horta qof oo 2 sano dheeli national teamka ama naadi soo ciyaaray ma ihi صح waxaan soo ciyaarayay 12 sano iyo dheeraad waxaan ku jiray national teamka صح marba waxa ay imaanay shooting forward ay imaanay makasino Soomaaligan waxay u badneed waxa waaye shooting guard iyo power forward u badneed ma fahamtay marka horta ku sheegi kari ma dhihi kari dadkaas my best markay ay noqoto power forward iyo shooting guard and forward markay noqoto ma dhihi kari laakiin dadka waa ku sheegi karaa dadka centeriska iyo dadka oo gaarka ani kulley afaran dalba lahay meeshii oo adiga halle ku sugaysid oo the best ahaayeen moogtahay complete macnaha maanta aniga waxaan u haystaa haye go ahead waxa waaye Madoobe Baar Rajab Cabdirashiid Balastika iyo Saciid Qorsheel marka waliba hadii aad ogolaato Cali Ismaan raacsisan lahaa macnaha di waqtigoodii ayagaba meelay kaga jireen oo macnaha runtii moogtahay hadii la yiraahdo marka waxa laga yaabaa ayaga laftigooda waqtigooda dad in oo aan hadda ka tagay inay jiraan oo guard laakiin inta ani aan soo ciyaaray horta waxaan badanaa la ciyaaray Madoobe iyo Baar Rajab runtii national teamka 2 qofood oo ka istaahilo inay gaar u noqdaan aniga ma heli karo marka dadka dhaadheer haddaan u baxo waxa waaye waxaan aadi lahaa Cadaawe iyo waxaan aadi lahaa Sirxaan ma fahmino iyo waxaan ku soo darsan lahaa oo waqtigii dambe yimid oo aan la dhigi karin hataa center waaye oo waqti dambe yimid oo dadka lagu kala tegay meesha Isaaq dheere ha okay ma fahamtay laakiin afkuulow haddaan been kuu sheegaynin haddaan ku dhaho shooterisan kala doorana waxa waaye beenan kuu sheegoyaa ma shiiqa the best shooter ahaa ma Nuurudiina ahaa ma Axmed Daahira ahaa ma Axmed Muuse ahaa waxa waaye waa soconay la listiga ma joogsanay laakiin qof walba wuxuu leeyahay hadda Mareykanka lagu sheegayo top 5 la doortaa top 5 kan waa isku dhaw yihiin qaarna xogaa waa kala dheer yihiin hadda magaciis muxuuha Tadorjey wuxuu yiri 60meeyadii iyo 70meeyadii early intuusan soo galin dadku fiirsan jiray shantaas ay yiri Michael Jordan iyo Magic Johnson iyo waa ka baxay warkooda ma fahantay marka laakiin hadda waxa ka Abukar magaciis muxuuha Madoobe wuxuu ka hadlay exactly dadka hore ma soo gaarin dadka uu la dheelay shantaas qofood ayaa aniga aan tilmaami lahaa uu yiri waa markano aragtidiisa iyo way aragnimadiisa ilaa heer qaran uu gaaray and I'm sure magaciis ma anagana kolba kala qayb qaadan doonaa marka adigoo with respect center waa ii sheegtay center waxaan rabaa 1980 wixii ka dambeeyay Cadaawo marka la dhaafo marka laga dambeeyo teeda kale waxaa tiri Isaaq Dheer iyo Cabdalla maanta labadooda maxay kala duwanayeen maxayna ninkaas oo number 1 ku noqday Cabdalla wax badan kula dheelina oo ninkan kaga hormaray Cabdalla ilaahay ha u naxariisto Cabdalla forward ko galaa iyo big forward ma galaayo center markii dheerka loo xisaabo Madoobe ujeeda amalana si loo fiirno waxa waaye centerkii markii la dhaho qofkii waa inuu horta size-kii leeyahay Cabdixal waa joogay
Cabdallah joogay isku size-koodii waxa waaye big forward Cabdallah iyo Cabdi Xalwa waa kala dheer yihiin laakiin Cabdallah dheer Cabdallah 66 oo ah ninkan 64 waxa joogtaa wuxuu ahaa ciyaartooyda oo big forward ugu fiican Soomaaliya waxa Cabdallah iyo Cabdi Xalwa iyo waa dadkii aan ku dhahay macnaha maanta big forward-ka iyo shooting forward-ka laga ma la kala xuli karo waayo ani ahaan Abuukar ahaan marka runtaa waay NBA-da markaad tagtid waxa waaye waxaa haysataa information haysataa ama waxaad haysataa waxyaabo badan oo macluumaad haysataa oo aad ku kala dhigayso dadkaas waxa leedahay ninkaan meeqow dhaliye ninkaan meeqow dhaliye kan meeqow difaaci kan meeqow blog intii meeqa sano dheelay meeqa game oo dheeli meeqow ka baaq dadka maxay yiraahdeen inta moogtahay aniga macluumaadkii baa rajab mahaayo macluumaadkii oo amadow mahaayo marka waxa waaye marka muuqaalada qaarkeed dadka qaarkood ma kala saari kartid macnaha marka waxa laga yaabaa inaad aadan hada israado qof as leedahay ama ninkaas ahaa hadana wax kala ku soo baa habeen kala ciyaartiis arkaysa ama waxyaabo kale marka waa very difficult marka gaarka marka centerka easy way sababtoo ah dhirirkii iyo macnaha nin center Soomaali ka ciyaarayo oo farsamo ciyaarayo oo caqli leh oo macnaha oo xogaa dhaqaaqayo waa sahlan tahay sidaad ku doorto mafaham mar iyo gaarkiina waa oga waa anaaba ku soo dhex jiray oo la joogay macnaha gaararka badana isbedel badan kama dhicin Soomaaliya marka national team ku yimaado marka that's why aan u leeyahay marka kulay intaasaan soo koobay gabkool abkulo haya madow ilowde ما أنا وحير ربع أن أبوكر وحير أنك شاقه إن أرد أبوكر influence basketball كتد بدنه كلها أو سود حقلي إن هذا for example حلقة أبو حكوا شيء أبو كسين وحكوا لها صبحي أو Friday morning حافظ الشنجاني إمو كوح صوك حسه أنت يقوم أنت كلي لينا على السيرة مكتئ الشباكة اللي يوصل قراء قهوي موس نوكسينا قهوة يموس نوكسينا مركب قهوة يموس نوكسينا أنا أسكو عبو أو كسيلة سيرتكو شباكة اللي أخو قراعي معناها إيش مركب وحو إمباكت كلها وحتى وحواي مروبيش كسنا وافي العناء وحنو كتسنايا إنا تيني ولا لا اسكو أبيتاني أتين وكتسنايا marka waxyaabaha qaarkood marka aniga xogaa xanaaqay iyo awgashada wax dhaqaale asoo bulule waxa bulule dheelolay marka runtii aniga wuxuu yahaa Abukashino kana hero yahaa respect badan oo u haya runtii waagan Soomaali joognana waa u hayay waxaasna waxa waaye ibn hatta waxa arkaysaa sida uu u organize gareenayo teamamka iyo teamkiisa he was really was a leader متقنع is really leader وها أنا وحياة بدنا وقت ده ما جرت ورنتي إن لفتي سكودي إن team leader ونخذه أصلاً كأركي مركز رنتي وحواي أو كشينا برشدي سي يوضع عيارتي سي ورالتنمدي سي وحي أهد مذا كفائدي أو هذا كفائدي رك بدنا I believe إن ما أنت أمسين إنه كفائدين رنتي وأنا كم هالسنة أو كشينا waxaa ku jiro magaciisu muxuu ahaa qadka waxaa ku jiro Dr. Cabdirashiid Baleya ku jiro oo badda u ciyaaraya wada taqaaniin wuxuu yiri labada qofood oo walaalahey ahay oo magac iyo sharaf leh maanta ka soo qayb galaayo yiri marka barihan xataa waxa waaye Facebook maasha Allah soo ku jira marka welcome markana way labadooda waa ku hambalyeeyeen Dr. soo gal welcome محمد هرطنا أبو كرد يمدوا لبض النم ما مغليسان هرطنا ما مغليسان حاجة عدكو كدرو كدوايا أو وقت بدن لقاتي أنا سؤال بنتي ملو بيكو عيارة أنا مدرسة من الشيء هنغطو أما هنغطو 15 ماي أنجعلا أن واحد بدن نروش اللي كسب بدري وأرتكو وعلى اللي بدي نبيله هذا حفيو أن هذيك يركينا نارته إلى هذه الدورة أمر داري عبادة صوب إلى هذه السيو
aniga waxa waaye meel weyn iga yeelaan madow iyo abuukar waxaa xasuustaa aniga isagoo saan isku raacaynayna labadeena garabna baxay magacaasaa waa gashanaa waa ciyaarnay صح غير الله سيب aniga waxaan jeclaan lahaa barnaamijka wax fiican waaye taariikh waaye isboortigii wuxuu fadhiyaa meesha ka soo tagteen oo ilaa hadda fadhiya hadduusan hoos uga sii dhicin oo kasii darinbu sidee looga qaadi karaa in mar walba la raadiyo waxyaaba badan oo anaga naga soo qaldamaa jira waktigeennii ama adiga waktigeennii oo ay number one ka tahay dhinaca motivationka wax ciyaartooyda wax motivate gareeya aysan jirin ma fahanti waa la qaarkood waa dhibanaayeen qaarkood waxaa waaye moraal ma hayn hadda mar madowba ka sheekeynayay dhiwankii markii aan ka hayba moraalkaaga jab u yidhi mataqaanaa motivation badan aan jirin oo qofkii motivate gareenaya marba saaxiibada hadii kula niya maxaa dhacay adaa kulahay see loo siiyey waxaa leedaha marka dahel waa ka haraya waxaa noo artay waqti miskaga dhuminaa laakiin for the fun of it oo ku ciyaaraya wisil ilaa hadda waxaa lagu ciyaaraa soomaaliya for the fun of it laakiin in maanta ciyaartooyda joogta soomaaliya la gaarsiiyo heer ay NBA ama scholarship ay helaan oo jaamacado ku yimaadaan weli mentalitygaas ma dhisna in ciyaartooydii gudaha joogtay tababar fiican ay helaan moraalkooda la dhiso ay dhahay comparable business oo noqdo annaga hadda waqtigeena markaan joognay waa jecleen laakiin ragaan aan fadayanaan lahayn oo aan fiirsano mentor noo ahaa madoobe abuukar cabduqaadir xaaji daahir mataqaanaa nuuridiin cali saciid raggeeda naga waaweynaayo dee naga horreeyey mataqaanaa waa fiirsan jirnay inaan challenge garayno marka laakiin waxa intaas nooga sii dheersan ma jiro inaan challenge garayno oo ayaga aan maanta waxay suubiyaan inaan sii kasii bedelno oo system kale aan kasii dhigno waxay ayaga mataqaanaa u ciyaaraan laakiin wax kasii weyn ma jirin see lagu gaarsiin karaa marka maanta in moraalka soomaaliya ragada maanta joogta oo mataqaanaa loo gaarsiinaya in moraalkooda la dhiso aniga taasaa idin weydiin lahaa insha allah waan ogahay wax badan oo qabateen waa dadaasheen ilaa haddana waa dadaalaysaan marka intaasaa idin weydiin lahaa waan idin salaamay waa ku faraxsanaa codkiinaa maqlo madow waa saranaa malmar waa ismaqalnaa laakiin abuukar mar igu dambeysay xaaji abuukar waa salaamaya walaalkii asagii yaraa kulli ما شاء الله ما شاء الله عبد الرشيد بلي واسل ليش انا امرنا واحد سستين امرنا اوه صفر بيج تايم بيج تايم عبد الرشيد ويلكي انه عبد الرشيد بلي يعني قبل بنادر انا قال سو لاست مينيت كي انا لا سو دري او 86 كي ابو كرشين اوروان كل ما وحير انا ادم كو هاي يري سي هاني وابي سو برسي انا هنا انا ما بكو اركنو يري كانوا كسو فري قبل وادي احمد قليل ميا ياسين ماحي ميا احمد قليل يا عيارين احمد ما ياسين ما سند كان غوري وها احمد قليل عيار سند كاس عيار اوكي او كشينا معنا صنع مكاس بروندي واحد بروندي نادينا هدنا horta balay waa ku salaamay runtii salaamuha abu waa ku inaan codkaaga maqlo oo aan ku salaamo aada ugu faraxsanahay waxaan ku weydiisanaa cafis sababtoo ah meelo badan oo isugu tagna ayaa jirto ashland ay ka mid tahay oon jeclaalahay inaad timaadid atlanta ay ka mid tahay oo aan tagno marmaraa sheekada soo gashaa marka waxaan u arkaa inay xan tahay marka inaan cafisidaan jeclaan lahay mar walba aniga cafisaaga tahay waxaa waaye adiga iyo kulligii waxaa walaalayga weynaad tihiin mar walba waxaa madaxa ay saaran tihiin waa jeclaan lahaa inaan maad laakiin waqtiga maarata ariiriga noqdo waa jeclaan lahaa inaad arko la joogo sheekaysano laakiin insha allah markii ilaahay waxaana dhaafsiiyo one of the days insha allah waa imanaa waxa waaye aniga marka adiga aan ku maqlo ama aan ku arko isla markiiba waxaan soo xasuustaa cabdijabbaar waayo wax alla waxa aad u taraysid badda cabdijabbaaraas oo munishiibi u taray waxaa moodaa isku dhig ina aheedeen nooc ciyaarta wax shaqada a qabanaysaan kulli marka the only thing aan aniga aan ku iimaan qabay oo as dhahay cabdirashiid hadduusan kooxdaada imaaninin dhib ma laha barkii cabdijabbaara haysataa haddii kale ama seerka igu badan lahaa jeclaa intaan badda ku almintay intaan munishiibi la almintay iga batay oo maaragtay aan mar walba la joogo oo haddi ku ahaa laakiin oday awowgii ahaa ibraahim xisbii la dhahayay oo jecleenba waxaas oo haddana
saasay tahayna markii kow liigiinaya allah naxariista badda waxay geeyeen nin yidhaahdo mahad maryare foonkaa la hadlay wuxuu yidhi ninkan waa kasoo wacyiran yahay oo tiimka ku dar maaragtay suuq la alminteeyo bes meesha almintadaan bilaabay habeenkii alminteynayaan ramadaan ahayd anoo maalinta dambe wuxuu arkay oo garoonka dhex joogo kabo oo yaryar oo size 6 miya maaqan xasan ayaa la beliyaado conference usosi oo intuu yidhi ninkan kaba fiican mayse kabaa naa la siiyo kabihii wato meesha dhuuna lii dhiibo oo banaanka ku ciyaarayo oo ibraahim bi soo galay wuxuu yidhi dhunigaas yaa waay una yaqaana marka waxaa leedahay ku inkiraa markaas wuxuu yidhi kala sii kowde gurigaada igsar gadaashiisa joogaa intay gurigaada meelaka looga garman hadda ma jirtay haweenna waay bes waa fadhiistay kabuu iga qaatay xagguu dhigtay wuxuu yidhi niyo iska bax challenge oo markii aan challenge gareeyay ku bilaabo markii aan fiican aan tuso inaan moor ala midteeyo degmada maxalli 15 May subax galab habeen markii dambe wuxuu yidhi ninkaan ma wasi diinayo asay ku dhig laakiin waxa dhahay murshibi fasax ma dhibi yaraan aaday maadaama magaciisna tore aad dhageysanaysay maanta labada lejan oo maanta annaga magac nagu leh siiba groupkeena hadda oo naga dambeeyo inkastoo aan zeere aan noqonin oo isku kiindara ay raal ahaada qatara iska dhigo haya marka idinka la jiro ma sha Allah laakiin maxaa markano talada hadda soo jeedisa ka soko in markano magaciis maxaa wacyi gelin ay inoo noqoto ayagana magacii sharaf oo ka haro insha Allah bidin la karim wasmeeyna marka Abu Karam waxaan rabnaa 6 o'clock wuxuu leeyahay game uu leeyahay aad uu sharfan yahay inkastoo xogaa half an hour aan tahnay aad idinka markano idinka raali gelinaya marka waxaan rabay 2 daqiiqo Abu Karshiina iyo 2 daqiiqo oo markano magaciis ma 3 daqiiqo oo Abu markano madoobe maadaama wax badan oo Abu Karshiina asqaatay laakiin wax badan oo og yahay waxa way dadka hadlama oo maleena magaciis madow dadka feeraha dadka tumalay oo maleena markuu dheelay marka laba eray markano adiga oo Cabdirashiid Baleyna salaamaysid iyo markano arinta uu ka hadla 1 daqiiqo iyo 1 daqiiqo oo aad markano aan la dardaarmaysid magaciis muxuu ahaa inkastoo shantaada qofood aa sheegtay unbelievable ay tahay recordable ay tahay hadda qof ilowda aad ku soo daraysid welcome ma sha Allah haya Cabdirashiid waxaa ku salaamaya 14 boqolka Facebook oo wada xiriirnaa oo iska warqabnaa laakiin aragti hore isku ka dambeysay runtiina codkaaga inaan maqlay aad ugu faraxsanahay barnaamijka aad sheegtay waa runtaa waaye waaqaca waddanka ka jira ayuu ayana sportska la qabaa aniga haddaan tegey waxaan soo joogay xamar waxaan soo joogay bil iyo adiga 10 beri adiga bil 9 beri meelaasaan soo joogay reerku waa ila socdeen reerka ismaynan arkin reerka waxaan guriga ku hoyday oo aan la joogay oo keliya hadday ugu badataa umalana shibistaan deganaa 4 habeen ayaan guriga usoo hoyday intii kale waxaan la joogay dadkii aan kubadda kolleyga ahaa ayaan believe me or not xataa waa seexday xaafadda howlwadaaga meesha oo ku taala beerta daraawiishta ay ahaan jirta oo la dhaho barakacayaasha meesha degan yihiin xataa habeenaa seexday oo u hoyday waxaa deganaa family aan aad isugu ficneen oo reer wadaag ahaayeen ayaan anoo siidka jooga is aragnay gurigiiaan tegey markaan guriga tegey kabacdi waxaa layidhi markaas waxaan dhahay caawa meeshaana seexanaa meelaan u socda male sportska waa baaba'san yahay laakiin dadka hadda jooga way dadaalaan wacyiga haya waxaan aaminsanahay haddii horta sidoodii u wada joogaan weli taas yaan kaa ilaabin sidii la wada joogaan degmooyinka degmo kasta waa tegey degmo kasta kuwii joogi jira degmada u cayaar jira sportska ahaayaa joogaan meel oo aad dhulka dhacaysa ma jirto howlwadaag dadkii yaa buuxa hodan waa joogaan waa beri waxaa jooga cali rooblaa jooga waa beri oo kugu soo horeeyaba marka ugu soo arkaysidba cali roobla waay famasa marka wacyiga haya haddii oo wacyigan laga baxo waddanka haddii dhaqaale helaan oo helaan sida uu dhaamaya sportska gudoomiye cadaani wuu dadaalayaa xogaana mataqaana ay sheeg wacyiga iska haysta dhaqaale xumo iyo waxaas yaa jirta maana sidooda kale waa okay waay marka insha Allah anigana ma nagu xumo oo hadda xitaa group oo allaha hadlaa jirno oo aan wax isku sheegno
oo sida wax loo sameyn lahaa iyo hadda maantada waxaan ka shaqaynayay tababaray ka bilaabeen bil oo degmada Howlwadaaga juniorka ka bilaabeen sida muddo dheer ka bacdi istaan ula hadlayay ay ogolaadeen in lagu ciyaaro hadda practice ka socda oo lagu ciyaaraa marka dadaalku way noo baahan tahay wacyigelinta nooguma yara groupkaas waa isla hadalnaa WhatsApp-ka ah marka insha Allah waa dadaalina waddankan hadduu noo hagaagana waa kasii fiicnanaa intaas aad kaaga hambalyeynaya maasha Allah hay Abuukar adigana 2 daqiiq maadaama kubadda cagta aadaysid Allah ku xafido Cabdishiin waa ku jira waa holka okay waay aniga ilaa xogaa waa iska joogi karaa ilaa iyo هذا جو كرت هل سؤالا كويدين لها أم قدال أودكتي أو مذو بين حوجان حسنا موقتي واجيني سبورت كده كسوق هذا استاد مقدشة أمان تلبوحيي هبين كنا اللوجنا لبوحيي أما استاد مقدشة لبوحيي حدنا إنكم كماش سبورتي كسوق بح سبورتي كمان مقنن عيارتوي دي إمام كذا كمان مقنن سوى حجران أبو كرشينا أهم معركنا مذو بين وقاعد تنبين دوناي وات كان معركنا الدونك ما أنت ماشي وجوجو ما أنت كاسان جارسين لهن أنا كسي في عنا كنا نان لهذن وعن سوسته وحدولت وحقوق تعدي بس كجرت أو حمر بيلة كانت قبل كيجي أحسوسته عياره أو ماركنا الدون كان كفير سن جورج هذا خير الله كسيه مركا أنت محي كود عذي إن دت كاس لإجنور كرايو الفنانين تيو صبتن هبين هالرواية الله دقو تياتر كماركنا ملك فراق أين جرين حدنا ماركنا دت كي ماركنا هيسا دت كي ماركنا مقعيش محوه أو هاي أبوانا هاي أما everybody musician هاي ما أنت نلاش يكون ولا يعني يوحي هايستana أوجناي بل أرنتاس ما كيف فكرتين ولي دبعت داس يدين سومرتي horta labada daqiiqo balay aan su'aashiisa uga jawaabay aan ka hormarsado ay okay hadaad wax ka qabin waxa waaye balay waa mahadsan tahay su'aasha aad soo jeedisay wax dad badan ay weydiiyaan oo ay ku taagan tahay horta dadkoo dhan dhalinyarada isboortigoo dhan siday u dhan yihiin markaa la sheekaysatid nin kasta wuxuu rabaa inuu wax u qabto Soomaaliya isboortigeed wax ka qabto dad badanna waxay rabaan waliba meesha ay joogaan inay ka bilaabaan oo wax ka qabtaan oo runtii anaga dhan waa ka bilawnay wax waa ka qabanay isboorti meesha aan joogno in aruurtii waxa aan ku badbaadin laakiin su'aasha taas waa ka sii dheer tahay oo maanta macnaha waxay aadaysaa Soomaaliya sidee wax loogu qabtaa isboortigeeda waxa waaye horta wixii waa complex waa wax isku jiro wax hal meel oo isboort intay soo baxaan wax ka qaban karaan maaha waa in waxaan ay Soomaali ay u wada dhan tahay waayo horta in nabadgelyo la helo in dawlad macnaha oo iyadana oo fiican oo macnaha oo macnaha intaan ka sii xoog badan in la helo waayo oo marka nabadgelyadii gacanta ku jirto markaas kadib in macnaha isboortigiina markaa wax waa qaban karaan dadna waxay leeyihiin war waxaas lama sugi karee ilaa waqtigaas ka dhaco war hadda hadhow macnaha wixii waa nagu raagayaan haddaba ha lasii bilaabo marka dadaa haddaba ku howlan oo wada arrinta oo macnaha ku howlan oo dadaalaya annaga dhaan ku jirno marar badan dad badan baa ila soo hadlo oo macnaha ururo badan waxyaabo badan la samaynayo it's fine waa socdaa marka halka shay keliya aniga aan ku talinayo wuxuu yahay haddiiba oo la maqlaayo waxa waaye war haddaad aragto dad isboorti ah oo program sameeyey oo rabaan inay wax horumariyaan hadday kula qaldan tahay ha ka hor imaanin adiga ka leexo haddii ay kula saxsan tahayna wax la qabo oo waxaad awoodaadi karaankaagii ee la qabo marka ila dadka isku fikrad ma aha isku sinna macnaha wax dadka inay wax u wada qabtaan nin walba wax inuu qabto rabaa laakiin ina meesha waa ka bilaabay isru wax u rabo waa lagu kala fikrad duwan yahay marka dhibaatadana haystaa waxay tahay qof dadkii dhalinyaradii waxay leeyihiin no taydii haddaysan ahayn aniga macnaha ma ku jiri ama waa ka hor imaanaya arrintan marka waxaa fiican qofka haddii dhalinyarada dad badanaa ku howlan oo wax ku dhex jirto qof kasta dhinacoo wax ka qabto hal in loo dhaafo haddii aadan caawini karin haddii kalena aad ku garab gasho marka taas in la hela ayaan jeclaan lahay waa taas meeshaas nooga baxay صح. That's good.
ay teedi ay ilowdeen ما يلومن لك هذيس you give him a respond in assisted وعير بلاي دور ha balay ma sugaysi hay balay محمد ولماذا ريزك هو يدي ولا عليه وحي تاي ان اي وحي عين سو صاريا ما انت ابوكر يبو لبدaba ان waxay soo saari jireen ciyaartoy fiican qiimo leh xushmad leh include adiga wadar waxaan xasuustaa dadka badan aniga su'aalaha ma dhaxdigo laakiin waxaan u joogsanaystay mudugii abuukar waa ogahay qalbigooda ogahay si u jeceliina ogahay waxa anaga la jeceliina ogahay waxay Soomaaliya la jeceliina ogahay maadaama oo hadda ay marka ciyaartoyda fiirsatid moral ahaan ay sabisneen waxaan amro baadi abuukar iyo qiimadooda iyo in lahaayeen dadka waa la taagi lahaa moraalkooda la fiiran lahaa waxa ugu badanna waxa wada waa moraalka moraalka uu jirin waxna ma noqon kartid waxna ma qaban kartid sheekh hadda magaalada ay jooga ay markay baxayeen aan sheekaysanay waxaan ku yiri sheekhu waa baxayna Cabdirashiid waxaan soo bixinay saan waxaan ku dhahnay dhageyso ciyaartoy naabiis ku keenay ku kiri tigid kana ka baxsanaa wanageyga saar diyaarada xaqiiqi wax ma qabanayo waxna ma kugu soo kordhinayo you have to have a budget that is good فريدنا lagu sugi mal adoo lacag fiican haysto ciyaartoyda train gareystay adigii og yihiin adiga ninkii mas'uulka ahaa inaad tahay wadaysid laakiin markuu aabihiis ama hooyadiis ama shaqo aniga shaqo ciyaarad ku ciyaaro waxna ku soo warnay mugad ilaa hadda way socotaa marka ani marba waxaan xoog saaraa wadaha hortoorto haddii wax la qabanayo maarteen budgetkii la haysto wax la aruursado la isdiyaariyo mara dhimanayo mugtaad haddii la dhimanayo waxa waa ilaahay tiis waqtigiis ma dhamaan haddii la nool yahay kale mataqaana waa la sii wadaa haddii center kuwa la sii wadaa in horta budget raadiyo ciyaartoyda hadda joogto training fiican loo suuqiyo scouts ajiro scoutskaas waxa waaye hadda wax walba waxa lagu suuqiyo hadda u suuqinaysa Zoom meetingkaas online and YouTube video iyo daraagula ciyaartoy fiican haysa ciyaartoydaas waxa laga yaabaa maanta aad scholarship waxay noloshiisa wax ka bedeshay asagana shan kale wax ka sii bedel noloshiisa marka maadaama wadankii iyo xaaladda hadda suuqinaya su'aashan waxaa weydiiyey rag wax aad u creative ah waaye abu kariyo iyo maxamed alhaadi labadooda waxaan weydiiyey si gooni ah maarta bal inay arrintii dib loogu soo noqdo la raadiyo ciyaartoy fiican laga shaqeeyo gudigii dibadba hadda abuukar waa maqlay Ottawa khayr allah si ciyaal badan oo baray dhinaca diinta dhinaca أنا كملنا تذكر وحصو بري ما شاء الله أروى. عادي مرة وهو هنا وش بيجري أنا وجس حواي وكل بدينا اللي معينه وهو غير الله يسير يعني وأنا إلهي حفظ عرفنا مغلق ما شاء الله. ما سنت مركب سامده هو واحد ما قول ما ستدير بعد هذا سكله والله أفكول محمد إبراهيم بابا وحوي سؤال هذا حوجة أنا ما أغان أفصومالي أنا أول بدوبي واحد أنا وكانت إمالي وأيسير دموع كوده أنا لك قبل ما أقول لك هذا لكن at least أنا ما جبت أبو كشينة تابية وما سلطابية أبو كشينة سو جنبية ورقة حوي waxaa su'aasha aa weydiisay xoogaa yar macnaha inaad clarification aad kala bixistaan jeclaan lahay sababtoo ah ma waxaa weydiinaysaa lacagtii meesha ka soo geli jirtay maxaa ciyaartoydii loo siin waayey iyo maamulkii loogu kala qaybin waayey mise waxaa leedahay xoogaa kale si fiican iigu kala bixis magaciisi muxuu ahaa maadaama aad dhididi jirteen oo aad dadaali jirteen oo income-kaasna idinka madaxiina uu kusoo geli jiray idinkana farkutiris aa aheedeen iyo waxa ka soo galaya 100% dhinac kale ee aadi jirtay maxaa percentage lidinkugu geyn waaye iyo qofka qaran noqon maxaa guri loogu dhisi waaye si uu calankii u matalay oo maarkano wax kale oo maarkano u helo oo ah maarkano magaciisa awareness inuu helo oo qofkaas oo maarkano magaciisa lagu sharfa camal ama something like that muxuu heli waay maarkano magaciisa muxuu ahaa
recognition muxuu heli waayaan ka wadaa ama mishaarkooda loo kordhin waayo ama guri fiican loo siin waayo ama baabuur la siin waayo ama xushmo uu lahaay maanta la siin waayo lacagtii dhan 100% meesha ka baxday ilaahay kaama bixi maxay u noqoteen ka wadaa horta arrintaas laba dhinacan u kala saarayna aniga horta xisaabiyaan ahay sax fiican marna xisaabinimo aan dhinaceedan ka soo galaa waxa waaye waxa ka soo qaadaaba garoonkii 5,000 u qaadaa luujilo 5,000 u qaadaa ka soo qaad sax 5,000 qaado shilin lagu geli jiray anaga qaal ma ahayn raqiisaan ahayn marka shanti kun qof soo gashay $5,000 la joogtaa 5,000 shilin la joogtaa 5,000 inta may ku taalahay idana shanti kun waxa waaye aniga mushaharkeyga 5,000 haya meesha ku dhamaaday halkaas maalin ko maxaa maamulkii maxaa la siinaa maxaan ku arbitrayaashii garsooriyaashii maxaa la siinaa ani waxaan aaminsanahay in la kabi jirin iska dhaaf in waxaan dadaay ciyaartooyda waxa waaye markii dhinacaas dhaqaale ahaan laga fiiriyo runtaa waaye si adduunyada horumartay waxay ku horumartay waxa waaye waxaa jirto hay-addii isboortigii laftigiisa ayaa ka gooni ah sidiisuu u madax bannaan yahay marka ilaa iyo gobolladii lagu ciyaarayaa lacagtii lagu galaayana dadkii meesha joogana dad dhaqan waay maanta dadka Soomaaliya joogay dad ayaga waxay u badnaayeen dad oo kunyar socday u badnaayeen dad lacag lagu kordhin karo ma ahayn taas waa dhaqaale ahaanta marka dhaqaalaha meesha ka soo galay haddii la dhihi lahaa kooxaha iyo maxaan ku raadaayo iyo xiriirkii iyo askartii meesha imaanaysi iyo wixii waxa loogu kala qeybiyo ayaga say maqsuud u noqdaan waxaan u maleynaa in lacag la'aan ugu dhici lahayd marka ka soo tag marka taas xisaab ahaan ka soo tag marka annaga waxaan ahayn markaa xukunaa meesha ka dhisnay dowlad baa meesha jirtay dowladda jirtay waxay ahayd dowlad oo military ah marka waxay ahayd wixii oo dhan macnaha waa iska centralized ayay ahaayeen wax markaa oo dadkii oo private oo loo ogolaanayay ma jirin marka sidaas darteedii loomaba ogolaanaynin dadka ma arkin oo xiriirkii ama naadiyadii inay saa uga soo qayb galaan laakiin maantay taas iridaas maantay furanta oo in laga faa'iideysto ay tahay ilaa iyo gobollada meel walba macnaha in lacag laga sameeyo isboortiga markaa sidii ciyaartooydiina markaa ay noqdaan dad lacag la siinaayo inay noqoto laakiin annaga kulley saasay ila tahay haddaan qaldanayna halay qabto waxaan ka hadlayaa istaadi muqdisho 50,000 oo qofooda loogu talagalay 84,000 people oo ticket loo gooyo saarihiina waa arkay wixii shuudku soo gal marka laga bixiyo 84,000 tickets oo 5 shilin 4 shilin 5 shilin iyo something like that lagu soo gali jiray waxay leedahay income kaas ma ku filnaan ciyaartooyda 20 qofood oo labada team ciyaarays ma ku filnaan ma leedahay afkool runtaa waaye laakiin 80,000 I wish stadiumkaas 80,000 qaadi lahay laakiin 80,000 ma qaado wax u dhowna ma qaado stadiumkaas stadium muqdisho basketball ma sheegohay waxaan sheegohayaa soccerka kubadda cagta waxa ku qoran 50,000 ku qoran laakiin Soomaaliya way ka yar tahay dadka 50,000 way ku taala akhris idoo ahaa jiro مشاكل ماله على فيري أنا هدان كسبورت هدان كسبورت حوي أبو كشورت سو شيء واي ماشنا ما هن برايفت أو سبورتس ما هن وحالي كبجري وكالة إيو وزارة هاين إيو ميليتري إيو basically waxay ahaayeen hay'adaha dawladooda ay ahaayeen wixii magacyada lagu ciyaari jiray hay-adahana lacagta qarashka bixin jiray ayaga oo mataqaanaa ma garan karo sida maaliyadda ay u xiriiri jireen waxaan hadda ka sheekeynayna waxay imaan kartaa markii private sector ay tahay oo yahay business lasii ka soo qaadba meesha hadda ay ka ahayd wakaaladaha inaysan shaqo ku lahayn inay tahay gobollo magacyo magaalo
inuu jiro maxaa la business sector oo ah mataqaana isha commissionerkii ah oo markaasay waxay imaan kartaa in cayaartooygii wuxuu raba la beygarayn lahaa laakiin hadda waxay ayagaa kabi jireenba runtiina qaali ma ahayn siduu hadda sheegaya abuukar qaali ma ahayn wax qaaliyana ma ahayn mushaarka la qaadanayana way nagu filneed cayaartooyda la siinaya way ku filneed mushaar fiican oo la qaatay ay ahayd oo markaas ka badan xataa shaqaalaha dowladda ah anise ila tahay ani kulleyba salarigeyga wuxuu ahaa 4,000 iyo 4,200 4,500 camal oo ahaa salarigeyga it was ayadaaba la dhamayn karinba waqtigaas 4,000 oo iska badatayba marka aniga waxay ila tahay inay ayaga kabi jireenba aysan ahayna private ay wakaalada iyo wasaarada iyo wax noocaas ayna ku koobneed keliya xamar keliyana ahaydna xamar meel kale lagama cayaari jirin waa adiga arka hadda cayaaraha gobolada marka la dheelayo way ka xamaasad badneed cayaaraha oo zeerada cayaarayo marka 1979 aan gobolka Banaadir aniga cayaarayo waxaan dhahay gobolka ayaa iska cayaarsan walba marka saas waa rabbi abu kursu sheegay waay afkool aan kugu soo noqdo waxaan ka soo qaadaa taadan ka soo qaadaa 50 kun aan ku soo qaadaa hadana xisaabi waa wixii isku dhufsaday hadeer adi sheekadaas ma ii keentay 50 kun hadii 5 shilin lagu shan iska dhe 5 shilin lagu soo gali haya 250 kun lay joogtaa haya hadii 250 kun xiriirka lacag la siinin oo naadiyada loo qeybiyo hadii 14 naadi 15 naadi loo qeybiyo naadigiiba cayaarta 15 kun ku soo aadayso saddex qofood mushaarkooda 5 kun waay oo saddex qof lama siiyay marka mushaar hal maalin maal dheelo haya adigana Abu Karshiino hal maalin miya dhameesto maalintan saddexaad siisi labada kasoo qaba marka garoonka stadium Muqdisho markii tagtid markii jeeni horseed dheelayaan ama markii jeeni iyo munishibi dheelayaan kontonkaas laga yaabaa inaa heshid haddii nasiib leedahay haddii kale kun lay joogta garoonka iyo 2 kun dagaalada ma sheego haysaa ka hor anaga joogni waa joogni waa ku sheegay cayaaraha badi 5 kun hadii la gaarin nasiib la lahay cayaara badi cayaarti kasta ma la buuxin jirin marka ala kulli hal ka soo qaad dhamaantii wixii dhanba dhaba hadii hataa la yiraahdo lacag ahaan waa nagu filneed okay waa la yiraahdaa systemkii ajriyaan ku ogolaanaynin ma fahamtay marka horta taasayto waagaas wax ma macno ma sameynaynin laakiin hadday taala hadda in wax laga qabtay hadda uma noqonayna arrimihii hore waxaan rabaa Jaanis maanta ma ana siisay aniga nin qaran aan ka samri waayaa jir wixii iga horeey gooni waaye oo qaran u qalmay mana markano ninkaasna ma mutaysanin labadiina qaranka dheelayseen qofkaas ina xataa aad tilmaantiin aad tiraahdo war qofkaas unbelievable waaye bal markano magaciisu ahaa bal qofkaas hala ogaado maadaama labadiina aad dadka la tashan jiray aadan ahayn ciyaartooy caadi kaliya leh oo respect lidyahay la tashi jiray ya ina la tashi jiray se gogaatay على كل حال وأجنها أنا قال صعنا هاي نينكاس عواي نين أحمد كلا هاي أو بنوني جيس أنا نينكاس أنت المام ويا unbelievable أو 15 مين أنا كل ديلي حدنا مريكان كندا كل سي ديلي نينكاس ملكستو بينكري هدي عاد ماركانو مقعيش ما بل نينكاس محي كل عدادين هدي نينكا لو شيء جيس نينكا أوغاسكو كلا شيء سوديز نينكاسنا ترنك وحسب فائدة سوى ما كرنا أنا bal welcome dadkaas kamid maxay ku dhacday inay iloodaan idinko legendki ah oo walaalahood ka weyn ahaadeen oo in dadkaas dad ay markano ka leeyihiin inay maanta fadhiyaan inkastoo dadna aanan gadaal u dhigeenin okay Ahmed waxaan u maleynayaa inuu zeer aad soo galay ciyaartooy fiican oo ahaa oo talent ah nin yarna wuu yahay aad u yar uu ahaa markuu cayaarayna wuxuu cayaaraya koox yar asagana leader uu ahaa oo hadaan dhahay wagad Soomaaliya wuxuu cayaari jiray wagadna uu cayaarayay waxaan u maleynaa cayaaraha inuu soo galay 86 ma 83 soo galay 83 84 soo galay ma dhax karto marka bixadiyo soo galay waa dheelay 85 waa dheelay 84 Ahmed kama 85 ma ciyaaray Ahmed
اوكي كسعه معناها ايش dad badan waxaa jira aan nasiib u yeelan oo aan soo galin qaranka asay kaligiis maaha dad badanaa jira oo aad u fara badan hadda for example haddaa kasoo qaatay ninka aniga tiimkan uu ciyaarayay cali abuukar gaas la dhahayo 1982 81 wuu ku jiray kadibna ma gelin qaranka على قريه cali gurey ha abuukar shiina waxaa xasuustaa meel isku waqti ahaydeen asaga cali gurey waa ku jiri ha waa ku jiri wuu ku jiray kadibna ma gelin wuu ku jiray ha haddana midada kalena waxa waaye xataa marka hadda la dheelaya xataa ciyaaraha marka la dheelaya number 1 forward mataqaana oo shurin u ahaa mataqaana ishaga balkiya ma soo gelin marka nasiibka u diida maahan axmed tuka ciyaartoy aad u fiican oo aan taas ay aaminsanahay abuukar yaa kaloo ka tagaysaa islaadahay oo qaranka oo astiri qofkaas wallahi uu ku haboonaa asagana may wallahi hadda ma xasuusto hadda hay abuukar raalli ahaada runtaa waay hadaayo hadalkayga macnaha wareysi marka ay wareysanaysa ugu horreeyay ama ku bilaabay axmed waa maqlay ha iyo cabdirasaaq ugaas horta waxaa fiicnaan lahayd arrintaas waayo ciyaartooyda roolka uu ka ciyaari karo ama kaalinta uu ka ciyaari karo inuu ciyaartooy kale qaran ku soo daro waa aaday u cusle waxa waaye waxaan xasuustaa one time axmed daahir ka qayb qaatay oo u adkaysan waayey oo ciyaartooy oo markaa uu yiri suggest gareey in ciyaartooydaas oo qarankana ku jiray inaan macnaha oo xanuun aan looga reebin xanuunka dartiis inaan looga reebin in loo baahdaa laga yaabaa ma ahane ciyaartooyda waa ku adkeed inay macnaha ay yiraahdaan ciyaartooygan ha lagu daro ama ciyaartooygan sida saxdana ma ahayn ma fahamtay si saxda ma aha laakiin runtaa waaye in waxa kaliya aan samayn karni waxay ahayd in ku dhaga hadal in macalinka lagu dhaga hadlo macnaha oo banaanka laga sheekaysto ninkaas waxtarkiisa iyo intaas si influence ay ugu yeelato runtii taasna way iska dhacday marar badan laakiin runtii aniga abuukar ahaan haddii gadaal loo noqon karo waxaan jeclaan lahaa inuu dhinacayga soo istaago axmed iyo cabdirasaaq ugaasba markaan wadamada qaarkood aan feesgaraynayn inay ila ciyaaraan laakiin su-aashaas waxa really ka jawaabi karo in macallimiintii markaas joogtay si fiican uga jawaabi karto iyo markaa xiriirkii jiray iyo barkee waxyaabaha annaga ciyaartooyna waa ka ahayd inkastoo aan ciyaartooy oo weyn oo meeshii oo role model ka ahoo aan ahayn haddana mararka qaarkood xadkaagii ma gudbi karti marka runtii taasna waxa waaye laakiin ciyaartooyda markii national teamka uu soo gorto loo doorto ciyaartooy waxaa jiro oo laba shakinayo markii loo yeero la yiraahdo kaali national teamkii ayaa lagu wacay haddana ama dib lagu soo saaraa oo gobolka camal wayno gobolka sidoo hay waay oo aan la talinayni waa jirtaa waniyo meesha meel la isku cuno ma ahane imow waa laga jecel yahay waxa waaye nasiibkaadaad ka helaysaa adi baxdaya ani baxaya macnaha ninkii national team u haro ayaa waddankan u dagaalamaya imow waan dhihi jirnay taas laakiin runtii ma dhihi jirin ciyaartooygaana meesha ka maqane macallin maxaad usoo xilka ugu dari weyse waa adag tahay taas waa adag tahay holac sana ka waran 1981 waa laga reebay magaciisu muxuu all african gameski bal ka waran ninkaas maxamed sheekh wallaahi aniga wax badan kama xasuusto laakiin waxaan asagoo ka mid ah wuxuuna ahaa shuutarada aan haysano aan ku talagalayno ahaa I think haddaana qaldaneen incident yaraa dhacay oo ah maalin inuu xanuunsaday marka ani ma hubo laakiin marka maxamed sheekh macnaha wadnaha ayaa maalin miya xoogaa yar oo xanuun ka dareemay ciyaartooydan waa wada dareemaan marar badan ay wada dareemaan I think cabdilatiif macallinka ahaa I think
maalintaas kadibna waxaan arkay ninkii oo national teamka oo ka baxay oo laga saaray marka dada waxay dhaheen marka maadaama wadnaha laga hayay iyo marka laakiin I don't know kulli macalinka Cabdilatiif waa nool yahay umaleena in asaga la warsada ku fiicnaan lahayd su'aasha ugu dambaysa idin weydiinaya waxa waaye top 5 shooter ever inta aragtay top 1 waa iga diideen laakiin top 5 oo shooter oo aan leedahay shantaas wax ka waxaysan ma jiro haya madow adaan kuga hormaraa okay top 5 shooter kaaga inta ku soo gaartay ka dambeysay iyo dhalinyarada kula joogtay iyo inta qaranka soo noqotay iyo inta fiirsatayba top 5 oo shab shooter oo shab shooter waxa oran kara Ali Abubakar Gaas Abdulqaadir Xaaji Daahir Bini Absaaq Ugaas يا كله يا أبصق شو قاسوها شاب شورها أو أهبلي بالبالكانا يو إم جي إم جي ما شاء الله يا عفشي جيري ويست يا يودير إنك أسمع عفشي جيري ويست جي وها مركي دمنا مدبعضوها وقتك أجموها مسوكابري وقتي يجوها أوكي محسوس هيا أبو بكر والله أنا هداي وحن كلها هالقف مدورناي شن عن كلها مركان أنا مركان هالقف ندورنو يا هاي أدلين والس مركان مدو أردت أنا هاي رحت صوّلها دكاني هاي هداي ويديسو horta dad badan markii macnaha dadka oo dad badan markay wax ogaa jiro markay wax sheegaan dadka kale waxay leeyihiin nimayo waniyo ninka waa lagu soo jiray leeyin kan waa waalan yahay ilaahay mana waalay laakiin ani maanta arrinaan rabaa inaan kuu sheego haddaa idhihi lahayd waa waalan yahay haddii waa idhihi lahayd macnaha Abuukar maxaa recordable waa la duubo hayaa adee ku taala waxa waaye aniga Afrika ma ku dhahay nolosheydaan ku dhahay intaan basketball fiirsanay NBA iyo Afrika Arab weligay ma arkin sheekha nin la mid ah ما شاء الله يا unbelievable ما فهمتي صح معناها عدارة دفاعي سي وحبا كشيء كرا معن كنا ديرانتيس وحبا كشيء كرا لكن شوتك شيقة إذا أبر بردي كرو مجرى صح ninka Axmed Xaajin la dhahayna inkastoo aan ku soo gaarin shooter waxa jiro Axmed Nuur waxaan u babardhigi lahaa Jerry West laakiin arinta sheekha waa ka sii fogta talafaro waa ka baxday haye sheekh markano madooba haye maadaama ninkan hadaa shanta nagu qasbay hal xab waa ku dhihi waay bal haye ma ku raacsan tahay mise waxa waaye qof kale oo sidaas oo kale waa haysaa ma ku raacsanahay sheekh waa isla dheesheen wax badan isku jiroonaya هذه ku raacsanahay and it's a different style way aniga always favorite keyga aniga and always favorite keyga markay noqoto shoot markay noqoto horta Ali Abukar way Ali Gurey way maxaa yeelay asagoo ordaya hadda kubadda asiisid it doesn't matter waa qabana waa tuura waana sii socdaa gada waana sii baxaya meesha ku jirta anaga wuxuu noo ahaa the best shooters oo national team ko noo ahaa kamid ma haddana wuxuu ku sii fiicnaa kala shoot kaliya ma isku haleynaysid haddana haddii shootka oo arkay in laga joojinayo wuxuu bilaabaa penetration uu sameeyo aad u qurxoon especially markuu laba mar ku dhufsado sida uga leexanaya markino uu laabka sameynayo I mean it was amazing way lakin sharp shooter sheekha waa ku raacsanahay
أبو كرشينو ما شاء الله إن هذا اللي كم هاد علنا إن عبد الرشيد بلي عياره مركز سوق نينا اللي ودينا جرى أو شوتر خطر لكن خطر هاي عمر يلا عمر أنيالا ما شاء الله عمر أنيالا إله حريص من كاس شو ذي جرى بنا يا long distance xasuustaa kuweedaan la ciyaarayn ciyaartii ugu dambeysay oo national teamka aan ciyaaraynayay ahayd oo kadibna Canada ka soo aaday waxa way kuweedaan la ciyaaraynay kuweedna koox aad u dhisanay ahayd macallin fiican oo NBA-da macallin u ahaana waa la joogay marka wallahi waa naga xoog badnaayeen si kastay noo ahaayeen Cumar Ayeelana dhinacaan uu tagay Shiiqana dhinacaan uu tagay Cumar Ayeela halow tuuray waa dhaliye Shiiqa dhinaca kale loo bedelay halow tuuray waa dhaliye Cumar Ayeela dhinaca kale loo bedelay waa dhaliye Shiiqa dhinaca kale loo bedelay waa dhaliye lix kala dhaliyeen aan wax u dhaxay jirin idinkoo soo gaarsiinaysaan labis lix meeqa way tomilan ma ho tomilan saddex ku dhufo waaw waxa way meeshaas 9 way صد إلها وحلو دلي within 5 minutes. واو. ما فهمتي؟ وحين نقطي لبدو ذنب لما قفوض وحلو سو قليي أو أم كبد إن عياران لو تلقلي. وطورا يا لبس. ما إني عنان. شعاتي لقشتين. marka waa it's Umar Ayala ilaahay ha u naxariisto waxa waaye he was one of the best shooters of Somali soo mara thank you inana ma sha Allah okay tii ugu dambeysay markaan waa naga yar tahay adig ya adana xasuus fiican tahay waa naga yar tahay wax badan waa fiirsayay adig laakiin waxa waaye adiga laakiin inta ay dhaqaaleynaysi markaan dawladda burburtay zeeraa way dhigi weysay bowling kasto aan ahay laakiin su'aasha kale waxa waaye labadiina qaranka waa ku jirteen who is the best markano coach oo qaranka idin soo qabto oo aqoon-yahan amiinas yaqaano meesha ka imaanaysiin instead ana markano magaciisu muxuu statistic ahaan idin xisaabayo magaciisu muxuu ahaa haddii aad brownigaas aad markano daahitaanka daahaysan passingkaada stealingkaaga magaciisu muxuu ahaa helberkaaga shootingkaada iyo all of these markano magaciisu muxuu ahaa maxaa yaa isdhehaysan qaranka ninkaas markano ninkaas annaga aan ka samri lahaa ama aan soo maray haya madooba ku bilaawo aniga macallin waxaa ii soo noqday macallin cabdideer allah u naxariistee macallin buruko tarabi saddexdaas ku noqdeen waa xusuusan aniga waxaan juus gareyn lahaa tarabina tiimkeena madbacadana macallin u yahaa waxaan juus gareyn lahaa aniga tarabi cabdullahi tarabi maxaa ku dhahday marka cabdullahi tarabi waxaan juus gareeyey maxaa yeelay madbacadana same system aan ku wada ciyaaraynay afgaradkeenana aad u fiicnaa inkastuusan macalinka koowaad uusan ahayn markaas national teamka adiga macalinka labaad inuu ahaa marka ani taasaan ku juusgaray qaranka macalin koowaad idinma noqonin asaga may macalin koowaad ma ahayn isagoo macalinka labaad u ahaa laakiin macalinima haddaa juusgarayn lahayd asaa juusgaran lahaa macalin koowaad haya abukar wallahi horta aniga hal macallin jiro aan maskaxdeeda ka baxaynin runtii anoo dhintay in kale ma ogi kulley waxa waaye macallinkeygii art duran runtii Soomaali oo dhanna runtii abaalay uga haysaa wuxuu soo gaarsiiyey annaga macallinkaasna waxa kaliya u juus gareynayn waxay ahayd ugu weyn horta
nin Maraykan oo daacad ku ah oo wadan oo daacad ku ah ma helaysid macallimiin badan oo Maraykan la soo diray oo yimid wadanka nin walba wuxuu iska watay waxyaabo badan oo macluumaad badan oo iska watay oo aan basketballka kaliya aan ku ekeen marka ninka kaliya oo daacad u ahaa Soomaaliya oo marka dambana hataa ay ku carootay dawladda Maraykanka iyo safaaradda ay ku carootay waa Arthur Duran indhahoona noo furay wuxuu anagoo indhaha ka xiran basketball ciyaarayni laakiin markuu yimid waxay noqotay inaa indhahan ay furmaan Soomaaliya oo dhan geeska gees in marka indhahana loo furo oo adduunkii aan wax la qaybsano marka macallinkaas ayaan aniga horta aad u xasuustaa oo aan runtii aan qof aan ku barbar dhigi karana jirin macallimiinta kale runtii dhammaantood macallimiin qof waxbuu ku fiicnaa marka runtii ma u malaynayo inaan hadda macallimiinta aan kala saari karo aan dhihi karo ninkaana 1 ahaa ninkaana 2 ahaa ninkaana 3 ahaa aan dhihi karo macallimiinta oo dhan qof walba qeyb ayuu ku fiicnaa qofkii training ku fiicnaa kii benchi ku fiicnaa kii maaragtay oo maaragtay la tashi ku fiicnaa kii oo maaragtay oo strategy ku fiicnaa kii defensive ku fiicnaa kii weerar ku fiicnaa laakiin kulley inta dhimatan Allah u naxariisto marka aniga macallinimada meeshaas aan ugu tagaa aad iyo aad idinkaga mahad celinaya waqtigiina qaaliga insha Allah week dambana waxaan keeni doonaa Rashid Doob iyo Cabdirashiid Balastika oo ayagana isku mar war soo bilaabay insha Allah telefoon qof walba ugu soo qayb gali karaa hadduu rabo xataa live kan waa la siin karaa waa loo qayb gali karaa inkastoo ayaga guest noo yihiin maxamed aadan xirsi madoobe aadan kaaga mahad celinaya abukurshiin wax xasuusta amalayna maalintii oo Minnesota aan ku dheeleynay oo fuustada aniga aad isla galeynay abukurshiin ka celinay Minnesota wallahi ma sha Allah marka abukurshiin wax badan isla dheelni laakiin hadii oo ku jiro la saacada way sheegi lahayn malayna laakiin bool maxaa laga sheegaa ilaaha joogo marka aad idinkaga mahad celinaya mentor dad badan way fiirsan doonaa ilaa 50,000 iyo ka badan way fiirsan doonaan haddii ilaahay raal kariyo Dr. Cabdirashiid aad ugu mahad celinaya aniga asag gobolka Banaadir hal mar iska baxna la dhahay alxamdulillah anagoo iska biibeeno laakiin hadda asiga zeeraa uu noqday aniga iska soo baxay wadanka waa soo tagay marka aad idinkaga mahad celinaya mar labaad mar saddexaad waa idin soo duceynaya ummadda ilaahay khayr idin sabti kastaba laba qofood la casuumaya oo walaal ah sidiinoo kalootee Abuukar aadan kaaga mahad celinaya walaalkee maxamed aadan xirsi iyo Dr. Cabdirashiid Cabdullaahi maarka maxamed balay aad idinkaga mahad celinaya wabillahi tawfiiq haddii aad wax ku darsanaysiin dardaaran welcome I'm not going to close the door aad iyo aad u mahadsantahay Abuukar good to see you brother insha Allah waa ismaqlaynaa barnaamijkan ugu dadaahineysana barnaamij fiican oo ahaa aad iyo aadna kaaga mahad celinaynaa mar walba noo baahatana diyaaran ku nahay insha Allah waxaan organization oo ka duwan insha Allah aniga Dr. Cabdirashiid iyo dadka anaga loodkana la ahayo guuleed iyo waxaan bilaabnay bal structure-ka inaan maarkino lagu ekeen Banaadir meel kastoo nabad in wax laga suubin karo teamna laga abwaabuli karo and believe it ilaahuma 5 team ee noqoto 6 team ee noqoto haddii soccer laga maarkino anaga hadda shaqo badan kuma leeyahay soccer meel kastoo ka dhisan yahay basketball-kii waa meesha hadda maarkino magaciisa muxuu ahaa Garowe wax badan ay waxay ahayd ilaa boosaas ilaa maarkano waxay ahayd nabadgelyo Hargeysa oo kale ciyaartooyda wili Soomaaliya la wada leeyahay waa la wada ciyaari karaa wax barbaleen male galmudug oo kale nabadgelyo way saddexdaas gobol oo kale maanta min 3 team min 4 team laga soo biyo baawura la isku gudbi karaa xataa bal idinka wax kale maarkano fikir kale oo anagana idin la qaybsanayo insha Allah bidinlaahi aadan kaaga mahad celinaya hay Abuukar ma waxa uu mahadsantahay Maxamed Ibrahim school barnaamijkan aan samaysay runtii jazakallah Cabdirashiid Balayne waxaan leeyahay hadda wali ku jiro waa salaamantahay Cabdirashiid faraxsanahay jira qaade maqlo Balay marka runtii ogowna kulli inkastoo aanan ku soo qaadin laakiin shutaradii Soomaaliya oo weersaray inaa ku jirto waa la soconaa laakiin sheekada waa meel kale maro haysaa أسير مالتي سال ورئيسنا أنا إن شاء الله. مركا إن شاء الله عبد الرشيد وهذه بلي وهذا وفرح سنة هنا عدك مقلو مذوب وما حسنت هاي ولا الكي جرى الله كارديكو. آمين. خير أسكوكنا مذوب. إن شاء الله وين. المها ريرك رمانتو ديقو السلام. ما شاء الله نسلم. عاود سنة سلام.
وإذنك قادم واتابوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن صوتنا فيسبوك إن شاء الله إيو ماركنو بيرسونال السلام عليكم. السلام.